الحمد لله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي ومهلا ما أنت إلهي بوكاتي سبحانه وتعالى. والله وحان آد أغفر حسنهي شيخي نوين شيخ عبد الرحمن سليمان بشير. الحمد لله إن systemkii uu inoo galay oo sheekhu inoo soo galay sidaan haddeer sheegay ama hadday sheegayay sheekheena Sheikh Cabdiraxmaan Sulaymaan Bashiir culumada waaweyn ee Soomaaliyeed ayuu ka mid yahay. waa sheekh Soomaaliyeed caalamka laga yaqaano, waa sheekh reer Djibouti ah, haddana ku nool dalka Canada. waa muxallil runtii odorosa ka hadla arrimaha caalamka islaamka iyo caalamka oo dhan, si gaarana focuska u saara mawaadiic aad u tiro badan ay ugu horeyso ku noolaashaha diinta, wanaajinta siyaasadda, horumarinta bulshada, horumarinta qofka shakhsiga, sidii loo heli lahaa qof caqligiisu furan yahay, maankiisu joogo, ka fikiraya mustaqbalkiisa, qof yeesha himad sare, si loo helo bulsho qoys wanaagsan iyo bulsho wanaagsan oo ummadda hogaamin karta. Sheikh Cabdiraxmaan Sulaymaan Bashiir, soo dhawow sheekh. alxamdulilah, jazakallah khair walaalkay sheekh jawhar iyo bulshada badan ee saaxiibada aad tihiin. waan dhowahay, waanan nin mahadnaqayaa inaan caawa iyo galabta ninba saacadda uu joogaba inaan la joogno insha allahu tacaala. waa mahadsantihiin. malay maqlaa sheekhi yah malay maqlaa ها شيخ وصحوي جزاك الله خيرا. ولا الله ويكم مقليان شيخ آد بدو ما هتسنتهي وقتها قيمها بدن له وحان رجينيا إن أنا وقت بدن أن كاقاد ما دام أو قلبت أدلاد هاي حدو أبيد محاضرة كرا أدلاد هاي موضوعي عاوة أن كوب الله مني إن شاء الله تعالى أيان جعلها إن أن خروج الله لبدي قيبات. طبعا قيبت خرا in aan lagjarkii kaa dhagaysano mustaqbalka qoyska muslimka ah, gaar ahaan qoyska Soomaaliyeed, weliba si gaara inaan u fiirino kuwa qurbaha ku nool, annaga oo marnaba aan ka reebaynin kuwii geeska Afrika ku noolaa. qaybta hore waa taas. kabacdina su'aalo ayaan rabnaa inaan kaa faa'iidaysano sheekh, aqoontaada iyo waqtigaaga biidnillahi alkariim. waxaa marti walaalaha dhammaan caalamka meel kastoo joogtiin, waxaa marti noo ah bahda Happy Marriage Academy marti u ah sheekheena weyn Cabdiraxmaan Sulaymaan Bashiir. sheekh ku soo dhawow mikrofoonka, tafadal mashkuuran, jazaak allahu khayran. alxamdulilah, salaatu wasalaamu calaa rasuulillah. waxaan aad ugu faraxsanahay walaalkay sheekh jawhar oon muddo fara badan kala maqannahay, laakiin haddana aan wada joogno, inaan ismaqlayno, is arkayno. ilaahay baa arrintaa inoo fudeediyey, teknolojigana inoo fudeediyey. ilaahay uu bini'aadamka baray, callama al-insaana maa lam yaclam. marka waxaan jeclahay oon ku faraxsanahay mawduuca aad ka shaqaysid oo ah inaa horumar la gaadhsiiyo qoyska, lana ilaaliyo qoyska Soomaaliyeed iyo qoyska muslimka ah meel kastuu dunida ka joogaba. marka insha allahu tacaala arrintaas waad ku mahadsan tahay, adiga iyo walaashay hibo oo iyadana gabadh agteeda qaali badan ku ah oo walaashay ah insha allahu tacaala. markaas intaas kadib waxaan jeclahay sidaad sheegtay, horta qoysku usraddu waxay leedahay ahmiyad gaara bay leedahay islaamka iyo bini'aadamkaba dhexdiisa. waxaan anigu aaminsanahay siduu ilaahay qur-aankiisa nagu baray in uun qofka bini'aadamka i jirin hadduunan qoysku dhex noolayn. marka waxaan oran karnaa laa wujuuda lilfardi biduuni usra. waa qaacida in la qaataa. qofka bini'aadamkii laba jiritaan buu leeyahay. jiritaan wuxuu leeyahay physics ah oo biologia, oo qofkan wax cunaya, ee cabaya, ee maaragtay raashinka qaadanaya, ee safraya, ee seexanaya, waa qof. iyo qof kaloo social oo bulsho ah
oo qofka weyn ee muhiimka ah waa qofka weeyaan ruuxda leh ee caqliga leh ee dareennada leh weeyaan marka qofkaasi ma jiri karaya hadduuna jirin qoys marka qofka bini aadamkii bilaa qoys jiritaan male okay arrintaasi waa qaacido in la xafidaa laa wujuuda lilfardi biduuni usra okay maxaa yeelay usraddu waa unugga koowaad ee bulshada weeyaan arrinta labaad oo iyada qaacido ah inaan isla qaadanaa waxa weeye laa sacaadata lilfardi biduuni usra qofka bini aadamkii ma raaxaysan karo adduunka habbi kuma noqon karo haddii uunan ku noolayn qoys dhexdiisa marka usraddu iyo qoysku waxay ka qayb galaan habbinimada qofka bini aadamka ayay ka qayb galaan waxbaan ka sharxi doonaa insha allahu tacaala qaacidada saddexaad inaan qaadanna ah waxa weeye oo iyadna muhiim ah waxaan oran karnaa laa najaaxa najaaxan xaqiiqiyan biduuni usra qofka bini aadamkii ma liibaani karo ma guulaysan kara ujeedaa ma dallici karo horumar ma gaadhi karo horumarkaasoo xaqiiqiya raalli noqda hadduuna jirin waxa la idhahdo qoys iyadna waa qaacido saddexaad weeye qaacidada afraad ee muhiimka ayla ah waxa weeyaan iyaduna inaan oranno laa tanmiyata lilmujtamac bulshaduna ma samayn karto horumar hadduuna jirin qoysas isku xidhan oo cilaaqaad qoysas haddayna jirin xidhiidh qoysas haddayna jirin iyaduna horumar bulsho ma dhici karo horta afarta arrimood markaan ka dhaqaaqno waxaan dhihi karnaa nolosha aadamuhuba waxay ku duuraysaa waa qoys marka waxa weeyaan qofku mar waa aabe waa qoys buu aabbo u yahay mar waa hooyo qoys buu hooyo ka yahay mar waa oday oo xaas buu leeyahay mar waa xaas oo oday bay leedahay mar waa inan oo waalid buu leeyahay mar waa gabadh oo waalid bay leedahay mar waa inan oo hablo walaalo ah bay leedahay waa inamo iyo hablo walaalo ah bay leeyihiin waxa weeyaan mucooyi baa jirta ayey baa jirta awow baa jira abti baa jira adeer baa jira waxaa jira maaragtay bulsho isku xidhan baa jirta oo la dhahdo qoyska ballaadhan baa jira quruxda ilaahay baa ina baray wa ulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin fi kitaab illah marka islaamka qoysku waa fidayaa ilaa halkaasu iyuu gaadhayaa subxaanahu wa tacaala marka walaalkay haddaan oranno bal qoyska mustaqbalkiisa han ka hadalla maanta waxaan kaga hadlaynaa saddex arrimood oo dhinaca mustaqbalka ah mustaqbalku horta ilaahay baa yaqaana mutlaqan tabaaraka wa tacaala waa gayba wax inaga laakiin waxaa la isku dayaa in la maaragtay la odraso iyadoo laga dhaqaaqayo xaaladda iminka lagu sugan yahay iyo taariikhda bini aadamka haddaan ka dhaqaaqno xaaladda qoysasku maanta ay ku sugan yihiin oo weliba qoysaska soomaaliyeed bariga afrikana ha ku noolaadaan amba geeskii amba yurub ha joogaan iyo maraykan iyo australia galbeedka ha joogaan waxa hor yuuraran waa maxay markaan aragno waxaan fahmi karnaa mustaqbalka qoyska mustaqbalkeenna qoyska soomaaliyeed haddaan ka hadlo wax weeyaan qoyska soomaaliyeed waa qoysaska qura iyuu ku jira adduunka ee weli isasii haysta yacni adduunka markaad maanta u fiirsatid qoyska ugu dumay haddaad eegtid yurub jarmalka waxaa la sheegayaa 2050 qoyska traditionalka ma jirayo haddeeta khalaas way dhammaatay waxa weeyaan faransiiska waxaa la sheegayaa magaalada baris ilaa 4-5 milyan oo qof baa keligii nool oo guryaha ku nool waa statistic yal la sameeyey weeyaan waxaa la sheegayaa dalka maraykanka oo ah wadannada ugu fiican dhinaca qoyska furitaanku inuu tob yahay oo aad la isku furo marka qoysku waa dumay marka loo eego European ilaa nin Maraykana iyo rag reer galbeeda iskula tageen quraanka taabiya u bixiyeen mawtul qarb inuu reer galbeedku dhimanayo geeriyoonayo waxaan ugu wacan waa qoys la'aanta weeyaan marka qoysku waa halis sabab ku jira adduunka laakiin Soomaalida qoysku maanta alxamdulillah inta badan uu is haystaa wali hadaa uu is haystaa haba la kala laalaade yani ma hal islaman loo si fiican laakiin waxa la dhahdaa kala tag kala luqadasha dhaantay Soomaalidu dhahdaa yani inuu reerku dumo waxa dhaanta in la kala laalaado uuna la isla joogo ayaa dhaanta bay yidhaahdaan marka cala ayati xaal waxaan oran karnaa Soomaaligu wali waa qoysaska sii nool ee sii jira adduunkan aanu ku noolahay laakiin taas kama dhigno qoysaskeenu way fiican yihiin sadraadeed waxaan oran karnaa saddex dhibaato ayaa hor yaala qoysaska Yurub ku nool kow dhibaatada ugu weyn hortaala si aan mustaqbalka u aragno wax weeyaan dhibaatada ugu weyn hortaala wax weeyaan asadma alxadaariya shock bay ku noolyihiin qoysaskani dhaqan bay ka yimaadeen dhaqan kale u yimaadeen sadma ku dhacday shock baa ku dhacday shock cultural shock political shock maaragtay cilmi ah shock diini ah ayaa ku dhacday
arrinta labaad ay ku nool yihiin waxa weeyaan waxaynan garanayn culture-kan iyo thaqaafadan reer yurub sidee ula falgeli lahaayeen cadamu macrifata kayfa natafaacal maca athaqaafa algarbiya iyaduna waa problem si aan iska ilaalino xumaanteeda wanaaggeegana aan u qaadano culture kastina wuxuu leeyahay xumaan badan iyo wanaag badan buu leeyahay culture wada nadiifa ma jiro waxyiga ilaahay unbaa wada nadiifa subxaanahu wa tacaala arrinta saddexaad ee hor yuurarta reer galbeedka qoysaska ku nool waxa weeyaan waa arrinta aan dhihi karno inaan jir ahaan joogno reer galbeed laakiin cilmi ahaan iyo dhaqan ahaanna barigii iyo galbeedkii iyo waxaan jeedaa geeskii africa iska fadhinaa marka jidhkeenna un baan meelahan socda laakiin waxaan nahay un reer qurac iyo reer cawl oo meelahan iska dhex fadhiya marka saddexdaa problem ayaa xoog inoo haysta akhii fillah wa ikhwaanii wa akhawaatii fillah okay arrintaas maxaa ka dhalan kara mustaqbalka soomaalida iyo muslimiinta bariga africa ka imata geeska africa ee ku nool maraykan iyo yurub maxaa hor yuurara waxaan maanta ogahay inay boqolkiiba diraasaad ma hayno laakiin maadaama aan ahay qof consultation bixiya sida adiguba tahay sheekh walaalka jawhar waxa weeyaan waxaan aragnaa inay ugu yaraan 60-70 ka badan yihiin qoysaska burburaya kala tagga aad buu u badan yahay waa daahira noqday waa muuqaal inay dadku ay dumaan okay arrintaasi mushkilad bay leedahay laba waxaa mushkilada oon aragnaa oon geeska africa waddanka mid aragnaa in ubadkeennii iskoolada ay ka daateen in badan xabsiyada ay ka buuxaan in badan waa arrintaasina waxbaa keenaya okay waxaa kaloo jira oo iyada muuqaal ah oo mustaqbalkeenna ay ku xidhmaysaa waxa weeyaan arrin khatar ah oo waddanadan ka jirta waxa weeye in ay dadka dhallinyarada ah ee ku dhashay iyo waalidku inayna isfahmin languistica isku fahmaan luqadooda isku fahmaan ma jirto af soomaaligiina way ka tageen odayaasha iyo hooyooyinkuna afkii maaragtay ubadkan ay ku hadlayeen ingiliishiga ahaa ama faranjiga ahaa si fiican uma yaqaanaan marka waxay taasi keentay isku dhac bay keentay facaca iyo facihii hore okay arrintaas marka walaalahay annaka mustaqbalkeennu suu noqon doonaa waxa weeyaan anigu waxay la tahay qoyska yurub ku nool iyo maraykan ku nool canada ku nool north america oo dhan iska dhe ku nool australia waxaan oran karnaa haddii la samayn waayo isgaadh saddexdan arrimood ayaan filaya inay ka dhacaan waddanadan kow waxaan ka filayaa inay ka dhacaan inuu soo baxo jiil mamsuukha jiil aanan soomaalina ahayn yurubiyanna ahayn mamsuukh baa dhaa jiilka noocaas ah waa generation isgaranayn tiiha ku nool inuu soo baxo waan ka cabsanayaa mustaqbalka haddii la isgaari waayo arrinta labaad een ka cabsanaya waxa weeyaan waa jiil culays ku ah bulshooyinkan uu la nool yahay oo waxu ku soo daray wax badanna ka qaadanaya waxna keenayn anfacayn jiilku ilaahay qur-aanku yidhi kallun calaa mawlaah culays bulshada ku ah inuu soo baxo arrinta saddexaad een ka cabsanayo waxa weeyaan ikhwaanii fillah in islaamka dhan een sidno oo ah ilaahay diintiisii tabaaraka wa tacaala ugu dambaysay ee saxda ahayd ee marka la baadho bini aadamka oo dhan ba u baahnaayeen inay ku dhammaato generationka imika aan dhalay kuwa ay dhali doonaan inay isku taagto sida argentiin ka dhacday argentiin madaxweynihii hore ee argentiin xukumi jiray wuxuu ahaa muslim asalkiisu suuriyuu ka yimiday laakiin isagoo kristan buu ahaa aabiina kristan buu ahaa awowgiina kristan buu ahaa way kristaanoobeen marka kuwan dambana cilmaaniin bay noqdeen idan waxaa keenay waxa weeyaan jiilkii ugu horreeyey yimiday amerikada koonfureed argentiin iyo brazil iyo ee sham ka yimiday libnaan iyo suuriya dad muslimiina oo soo shaqo tagay bay ahaayeen markay waddanadaasi isbaaniyoolkii waxa ay haysteen bortugiisku laakiin maanta generationkaasi ma jiro brazil masaajid weyn baa ka dhisan wax ku tukadaay ma jiro australia masaajid baa ka dhisnayd ingiriiskii iyo hindidii iyo soomaalidii lagu dhisay dhulka ay dhiseen laakiin way dhammaadeen intahad qaar baa noqday kasinohad markaas waxay ku tusaysaa waxaasi inay xataa diinta dhan annaka inagu dhammaato marka problemkaasi waxaan ka baqayaa waa taas weeye laakiin mustaqbal fiican baa jiri karaya haddii aan samayno laba arrimood dadka ku nool north america iyo yurub iyo australia okay mustaqbalka fiican ee aan samayn karnayo waxa weeye walaalayaal marka aan isla aragno inaan nahay bulsho inaan u fikirno si bulsho oon u fikirin si kala fikirta soomaalidu way kala fikiraan soomaalidu waxay yihiin soomaali jabuuti soomaali somaliland soomaali puntland soomaali maaragtay koonfur soomaali kenya soomaali ethiopia soomaali bay noqotay
marka inaan noqono soomaali isku dana oo ku nool wadanadan loo yaqaano reer galbeed caqliga haddaan yeelano waxaan dejinaa istiraatiijiyad ah maxaa inoo dana taasi waxay nagu qasbaysaa inaan samaysano waxa loo yaqaano saantaro ama loo yaqaano unugyo ay leeyihiin dadka muslimiinta ah ee soomaalida ah oo miskiidku uu ka yahay qayb ka mida laakiin miskiid aan ahayn oo ka ballaaran miskiid in la sameeyo haddii caqligaa la yeesho mustaqbal wanaagsan baa soo bixi doona arrinta labaad mustaqbalka wanaagsan uu ku xidhan yahay waxa weeyaan haddii aan samayno wayaan iyadana inaan fahno inuu islaamku ahayn culture islaamku culture culture thaqaafo maaha islaamku maaha wax dad leeyihiin inta badan waxaan ku dhegsannahay wixii aan afrika kala imanay islaamku waa diinu lcaalamiy tabaaraka alladii nazala alfurqaana calaa cabdihi liyakuna lilcaalamiina nadiira wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin inaan noqono dad culturekoogu yahay international oo globalization oo cawlamo sida oo adduunkoo dhan ay maaragtay ku noolaan karaan haddaan saa u fahanno cabsidaan naga baabi'i waxaan anu idhahdaa waa inaan qaadana fikratu muusa oo ka tagna fikratu bani israa'iil maxaa u dhexeeya fikratu muusa iyo fikratu bani israa'iil nabi muuse wuxuu ku yidhi calayhi salaam reer bani israa'iil udkhulu laraadi التي المقدسة التي باركنا كتب الله لكم دول كبركيسنا إلهي نقلا قلبوا قلا حبسونا اقتحموا وحيدا هذين لا ندخلها مقلا حتى يخرجوا منها إلهي كصبحان عقلية المقتحم نكر نرش قلا يا لو ما هي سوق عبسونين سوق رسول يعني وساقدي عيالك يقدمني دينتو مارد لغة هرس بكجرتها ما عبس عيالك هذا وحا مركز لغة آخرية عيال فل أي نقونيان وعبسي بدل كجرتو عنقيدو لكن أبدان كو آخرنا مسلمكم ميل كستو كنولان كرا دينتي سرو حديثان كرا كالجرنا الله سميو بيأفي عنا الله سميو وحي تاي وناك وحان كبحي لها هذا الكيغا سوكو بيو ولا الكي يا ولا الله هيغا مسلمين تا يدغيسان يا سوماليات ميل كسي جوغان وحان كبحي لها لو أعرفت جيسكي أفريكا بنقول لها جيسكي أنا أفريكا بلشة الصوماليات وحا لغوت الماما أنشد إمارة بلشة في العالم مجتمعات قوة وفي عم بلغوت الماما وناجحين ويان وضد نولش آميسان ويان لكن وضد أن لهي تخطيط بلانيفيكاشن مالها ووحي كوري مادا ويتشيرانو مركا محاكم مغان جيسكي أني أفريكا سألنا كمان نغم مقاتاي وحاي نغم مقان التخطيط الأسري وحده قويسكو إنو يشوف بلانيفيكاشن هل كو صعدا هل كو يمكا جوغا هل كو صعدا هل كو كيمتي محا أهدافا وجيدوينا محا وسائل استعمالي دونا محا دباتويك اللي قهر تيجي دونا وحا صعدا إنو مرة تبنو وأريوين أريد طلبات جيسك أفريقيا إنو يستوحيان والدولة الآن هي دولة حمو مركا الدولة الآن تي دولة حمو وحي نو كارسا إن دادكو فهمي ويان بريتو لصبح هادو قفكو سوكعو محوكو سوكعايا على أي حال وحانو يدنو قبهانا هاي ما دام جيسك أفريقيا مجتمع كنو لبشي وهيستو قويس يوسكو حرن وآبو يدو يأوو يمعوي يهويو يأيي وحي ودن لو وضا هيستو إلى أنتا لو بدلو فعل لو بدلو مجتمع لو بدلو مارت علمي اللي قد لورنون سدابا هنجرنين علمي الدراسي اللي قد سومالو كفايسان أرنتا اللبات وقبهانا هاي جيسك أفريقيا سيا مجتمع قويس لو بادي وحويان إن أنا لهلو دورات سمينار dadkeenu islaamaha barigoor miyiga iyo baadiyaha habeen walba seminar baa la qaadan jiray miyiga oo habeenkii marka xoolaha la soo hooyo dabka la shito ee cuntada la fadhiisanayo aabaha hooyada awowga ayayga muciida casharay bixin jireen ubadkuna casharay qaadan jireen iminka wax way ciyaalku soo ciyaarayaan ubadku bay soo hoydaan way seexdaan buugaantay qaataan iskuulka tagaan wax maaragtay seminar oo maaragtay dawlad ah oo u dhaxeeya ubadka iyo aabaha iyo hooyada ma jirto wada sheekaysi male marka waxa loo baahan yahay ina ilmahana la dhageysto ilmuhuna dhageysto yaani ilaahay laba dhagood buu noo yeelay laba dhagood iyo wuxuu noo yeelay af quraate annagu waxaan u bedilay 10 af iyo dhag quraate macnaha waxa ka dhatahay waan hadallahu maxamed dhageysano yastami'una alquran yastami'una alqawl istimaac majrur ba dhageysano marka in ubadka la dhageysto sheekay wadaan taahbay wadaan problemiye wadaan experience kana la siiyo laana waxay moodayaan nolosha 10 sano jireen iyo 5 sano jireen may moodayaan nolosha inay tahay adiguna konton baa jirtaa waad arkaysaa inuu aqligiisu yar yahay qoslayo ciyaarayo laakiin ha ku qasbine
tus inaa hareerihiisa tustid u ballaadhisid wuxuu arki karayaa waa inay sheeka jirto markaa geeskeena afrika sheeka ma jirin inaa sheekada la bartaa fiican odayaashii sheekada bartaan dumarkiina sheekada bartaan halkana iyadana sheeko badan baa jirta laakiin waxaa jira problemka weyn ee imika soo baxo ah teknolojiyadaan ku wada sheekaysanayno oo noqday aabbo oo noqday hooyo oo noqday ayay oo noqday abti oo noqday adeer oo saaxiib noqday oo qof wax walba uu kaga maarmay marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay dhalinyarada caalamka joogto oo dhan maaragtay ku jirta kula xidhiidhaysa maaragtay akademigaaga ku xidhan in badan kaa faa'iidaysataa waxaan leeyahay waxaan u baahannahay insha allahu tacaala ru'ya jadiida fishin cusub waxaan u baahannahay khuda jadiida plan cusub waxaan u baahannahay iyadana project mashruuc jadiid baan u baahannahay waxaan kaloon u baahannahay inaan baranno sida looga hortago taxadiyaadka iyo dhibaatooyinka laba shayna waan uga digayaa dhalinyarada soomaaliyeed meel kastay joogaan khaasatan dhalinyarada isguursanaysa imika waxa loo yaqaano in lagu xaliyo problemyada iyo mashaakilka waxa la dhahdo dudmada degdega ah dudmo sooma yaqaanin dhalinyaradu ma fahmayaan dudmadu waxa weeyaan xanaaq labada baday isdiidaan in la kala dudo kala tegid la kala aamuso waxaasi xal maaha taasi waa in la iska ilaaliyo arrinta labaad ee la iska ilaaliyo ee muhiimka waxa weeyaan marka inaan qoys la dhisa la doonayo waxa la dhahdo at-tacaali inuu mid kale iska sarreysiiyo yacni ad-dukuriya almutlaqa waxaan u bixiyey raganimada ziyaadada faxalka doobnimada iyo culayska raganimada raggu iska dooraan ee ziyaada in lagu xidhoobo dumarkana waxaa oran lahaa al-unsawiya almutlaqa feminismigan iyadna balaxadka in lagu xidhoobo dhexda la isku yimaado la dhahdo insaaniyiin baan nahay humanism dadnimo in lagu xidhiidho ilaahay baa qur-aankiisa noogu sheegay bacdukum min bacdin raggu waa haween bay ka yimaadeen haweenkuna rag bay ka yimaadeen laa xayaata lirajuli biduuni imra'a walaa xayaata liimra'atin biduuni rajul lama kala maarmi karayo waan isbuuxinaynaa takaamul baa inaga dhexeeya annisaa'u inama annisaa'u shaqaa'iqu rijaal ma acdama qawla nabiyina hadalkaa nebiga wax ka weyn ma jiro maaragtay dumarku sal ll slam wuxuu yidhi waa qayb ragga ka mid ah ragguna waa qayb dumar ka mid ah qur'aanku cilmigaa uu nebigu sheegay maanta cilmigaa sheegay soo maaha yacni korosoomyada qofku ka samaysan yahay marka maanta la baaro waa 23 raganimo ah oo hooyadaa ka yimiday iyo 23 aabbaha ka yimiday iyaa ninka ku wada dhex jira gabadhana waxaa ku jira 23 aabeed ka yimiday naagu walba waxaa ku jira qayb nina nin walbana waxaa ku jira qayb naagnimo ah ilaahay baana ku abuuray tabaaraka wa tacaala lianna waxay taasi daliil u tahay inuu asalkeenu ahaa aadan iyo xaawa oo korosomkeenu saa usoo kobcayay oo ilaahay yidho min kulli shayin khalaqnaa zawjayn laba baa la ahaa bilowgeeni labaa laga yimiday qiyaamahana maaragtay ilaa waidan nufuusu zuwijat laba la isku raaci doonaa wajazaakum allahu wabaasatiin ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله شيخ عبد الرحمن سلام بشير إلهي هاكو بركيو جزاك الله خيرا 20 دقيقة كير waxaan u malaynayaa in qaabka mawduuca aad noogu jeexjeexday ilaahay khayra ku siiyo aad u soo bandhigtay in ay tahay qaab baxthi laga samayn karo طبعا annaga happy marriage academy ama hay-adda oo noqon doonta family happy family academy waxaan aad uga faa'iidaysanaynaa in buxuuthan qaabkaas looga faa'iidaysto insha allahu tacaala sheekh inta aanad naga tegin kolley walaalo badan ayaa ku jira caawa qaarkood culumo yihiin qaarkood arday yihiin qaarkood baaxisiin yihiin culum kala duwan ku takhasusay oo nala jooga oon magacdooda halkan aan ka arkay qaarkood wariyayaal ay yihiin intuba aad bay u mahadsan yihiin jazakum allahu khayran waxaan rabaa in aan laba arrimood isdul taago sheekh khayr allah ku siiyo waxaad noo tilmaantay yacna haddii aanan la helin qof fardi ah oo wanaagsan oo usro wanaagsan ku dhex jira oo mujtamac wanaagsan ku dhex jira in noloshu aynan ficnaanin in aynan jiraynin maxaan ku idhaahdaa nolol farxad leh nolol degan nolol xasiloon nolol ay cadaalad ka jirto nolol wax walba ay u dhammaystiran yihiin in aynan jiraynin marka waxaan rabaa in aan ku noqdo sheekh dhowr arrimood oo tilmaantay oo cajiib ayaa jira runtii aadna ii taabtay
kow marka la fiiriyo problemyada ka jira cawlamada ah ama maaragtay caalamka oo dhan maanta haysta hadalkaaga ugu dambeysay waxaa ku jiray technology-ga sida uu maaragtay u saameeyey qoysaska iyo nolosha iyo qofka oo ka dhigtay mararka qaarkood inuu qofku ka go'o cid kasta oo dhan uu ku xidhnaado aaladdan maaragtay electroniga waxaa marka taa iigu horreysay qodobadii aad tirisay ee ahaa shoogga hadday tahay maxaan ku dhahday dhaqan markii la soo guurayay dhulkii laga yimiday ee dhulka qurbaha la yimiday shooggii dhaqanka shooggii diinta shooggii bii'ada iyo maaragtay environmentka waxaa tilmaantay marka la fiiriyo mustaqbalka sida hadda loo socdo diraasada hadda jirta marka la eego dadku siday u dhaqmayaan inay cabsi jiri karto maxaan ku idhaahdaa jiilka soo socda jiilka ku sii xiga inay dhici karto diintoodii inay dhumiyaan arrintaasaan rabaa in aan linki kaga dhigo amaan ku xidho sheekh arrintii aad tiri geeska afrika dadka jooga iyo dadka ka soo guuraya halkan yimiday fursad ayaa jirta in maxaan ku idhahdaa laga faa'iidaysan karo oo ah in wax la baran karo in cilmigii maaragtay mutawafir uu yahay oo maaragtay available uu yahay uu jiro jaamacaadkii inay jiraan culumadii inay joogaan sida adoo kale iyo maaragtay kuwa badan oo lamid ah seminaaro in la tago oo cilmiga in la qaato sheekh sidee loo waajihi karaa taxaddigan kow innaga soomaali markaan nahay waxaan ku xidhannahay inta badan diin dadkeenu aad bay diinta u jecel yihiin meesha aan toogno ee qurbaha ah marka laga hadlo adigu hadda aad joogto Canada Maraykan Australia anigu halkan UK aan joogo Europe dad badani waxay ku xidhan yihiin culimada Soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaa loo baahan yahay baan isleeyahay oo mararka qaarkood ciriir uu ku jiraa culimo galbeedka ku kortay ama wax ku baratay ama dhulkii intay ka timid dhulkan timiday oo degtay fiqul waaqic intay fahmeen jiil soo saari kara arrintaas sidee mustaqbal ahaan loo badbaadin karaa jiilka laga baqayo in ay dhumaan kuwa ay sii dhaleen inay diinta ka baxaan taasi waa mid see loo heli karaa dad culimo ah oo ka yimid geeska Afrika ama ka yimid caalamkii aan ku noolayn halkana ku noolaaday muddo jaamacaadka ka soo baxay sidii doctorkii maxaan ku leedahay habeenka dhawada ka sheekeynayay Mohamed Shinqidi reer Mauritania ahaa tu Maraykan wax ku bartay dib ugu noqday dhulkiisii sidee loo heli karaa si loo badbaadiyo jiilkaas arrinta labaadi waxa weeyaan sheekh waalidka halkan jooga ee isagoo ka go'an Afrika isagoo ka go'an meesha uu ku nool yahay Afrika ku xidhan aqligiisu ilmihiisiina ay koreen isagii ilmihiisii ay isla soconna jaanibkii tarbiyada ayay galaysaa baan rajaynayaa sidee isagana loogu baraarujin karaa meesha uu ku nool yahay inay qurbaha tahay ee aynan ahayn geeskii Afrika isagoona laga goynaynin isla markaa in uu geeska Afrikana ka walwalo oo wax u taro oo wax u qaban karo fadal sheekh jazakallahu khayran waxaan ku baraarujin lahaa walaalaha in ay naga soo wacaan WhatsApp-ka iyo maxaan ku dhahdaa aymoga telefoonka aan soo qornay insha Allah walaalaha culimada ee nala jooga aqoonyahanka nala jooga insha Allah ta'ala sheekha marka aan su'aalaha aan weydiino idinkana insha Allah ta'ala fursad baa idin siin doonaa barakallahu fiikum fadal sheekh jazakallahu khayran alhamdulillah walaalkay sheekh Jawhar amba Jawhari sama imka lagu yaqaano waad mahadsan tahay waxaan kaloon aad ugu mahadnaqayaa walaalaha ku jira ii sheegtay aqoonyahanka culimada iyo murabbiinta iyo dhammaan maaragtay qalilanoolayaasha iyo saxafiyiinta intaba waan aad baan u salaamayaa dhalinyarada aadka maaragtay u nashidka ah ee u active-ka ahna waan salaamayaa insha Allah haween iyo ragba aad baan u jecelahay ilaahay dartii baan u jecelahay subxaanahu wa tacaala walaal waxaan jecelahay inaan inta aan ka jawaabin su-aashaada muhiimka ah labada su-aal muhiimka ah inaan idhaahdo horta qoysku waa afar nooc maanta afarta nooc ee qoysku yahay inaan wax ka yara sheegaan jecelahay أي قوس أدونك جوغورن قوس كيغا كميدا قوس كالشيخ جوهر با كميدا وان أمالينا إنو كجرى يساقو نمبر 1 كوا بحيا وحاجرا و E A B C T ما سيرنا موقتها مركا قوس كناجحة قوس كوحالة وحان قادرنا فكرة لهذا السعادة والنجاح وحنا جدا صح أدونك وحاجة وحنا
قف هبي وسعيد فرحة يقول بكون يا فرحة وهبي بونيخ بين رجع أفكا يبوت نوجو مستنا مركا سعيد بعربته ترى هذا أنا كون واحد راحوا سفي عنه بونو لي قال هذا إن مارت أقول سوسة كون هبي بهذا صح حجر الشخص هبي أما قوس هبي أجرا وسعيد قوس كاسي مركا يوحجر الفكرة لنادو ناجح هو قول وي هبي قوي يكون مسكين معها waxaa dhici karta inay kala duwan waxaa jira naajix qof oo iskuulka ka gaaray darajada ugu sareysa master iyo wixii ka dambeeya qof oo lacag ururiyey maaragtay bishii shaqaynaya 6,000 7,000 oo gini oo afkiini weyn UK dhulkana 4,000 5,000 6,000 oo dollar shaqaynaya waa yani waxaad oran kartaa waa naajix xagga shaqada oo qof waxaad arkaysaa matalan guryo dhistay qof baabuur iibsaday وناجح بعد هذا ونكاس ونليباني ويان أبد وناكسن دلي وناجح أوكي محمد ماشي يلا بحاجرة السعادة وهبية هي النجاح أوكي أنت أنا أقول قويسك وحنجعلها هنا كلا صارنا ليس كل سعيد ناجح وليس كل ناجح سعيد صحوي نكستي وهبية كما تقولنا او ليباني أدونك نكستي ليباني كما تقولنا هبي بويا كما تقولنا نعم اوكي مسلفه الناس عارفه اسمها نعم اجر مانتا رجوا وين او غوليستي ادونكا لكن كنين كو سيخدا كنين كو توسا او هبي انين ما صح وحاجر قار ان وحبا هيسن او عاوا انو قدا عنيا ان اوغين لكن هبيا او مسكينka dhex fadhiyo darwiisho wadaad oo farxaan ayaa jiro markuu saa dhinaca u dhiga dhulkaba bila maartay hurdo la soconayso oo raaxada wajigiisa ka muuqatay farxada la yaabis okay bila kaliin saaxaday saxwi annagu markaa maxaan rabnaa ma inaan habbi noqonaan rabnaa mise waxaan rabnaa inaan najahno annagu markaan nahay dad muslimiina quraanku wuxuu nagu amray inaan labadaas ku keeno inaan noqono sucadaa wanaajixuun maxaa markaa mideeya assacaada waxaa dhahdaa af carabiga iyo annajaax halkay ku midoobaan waxay ku midoobaan kelmadda la dhahdo alfawz quraanku bixiy amba alfalaax يا كتابك إلهي بارا سعادة ويكسوا أرطي قرآنك وأما الذين سعدوا وصمعين نعم ويكسوا أرطي قرآنك كلمة السعادة لكن القرآن كأنكم سؤالون كلمة النجاح كلمة النجاح وكلمة عربي وصحة الصومالي أنا وأقول لكن وكلمة بروتستان كمر كان كهل لنا وحويان بروتستان كواحد كشكيان إنه كنا بدك إنجليزي كنا جيبه واحد كشكيان قفك بروتستان الدون كعنت كل جاي إلهنا رميسا هذا هو الناجح بين هذا أنكم مركب محلنا هاي وحنوبها هاي الفائز فأولئك هم الفائزون هم المفلحون أوكي قيس كانوا صورة عنا فكرة داس قيس مركب وأفر وحنكسر بلا من هوس كرة نص صعنا يا شيخ مارة جوهر صحوي هوس ما كسر كوا نلش كنا عاي ما كبلا بينا قيس نلش كنا عاي إلا قيس كانوا نلش كل يباني أوكي قيس كوباد وحويان نلش كنا عاي وقيس كانوا بحنه وأسرة غير سعيدة غير ناجحة غير ناجح الله بدي ويكون عاد سعيدين معها أقل كوهاب بكم النولو ما فرح سنة ما قصلان اسمه جعله نلش مارتي هبي معها أوكي وحي هبي جو كيلو نبى كم بغن ذكري صلاتي قرانكي الله كحدشه جعيرك يسكون جعلاين هذه يسكون كينيين وحي نبى كم بغن نجاحي لو كم بغيه مشى قيستان الله شو كذاتين سكول من نجحان مارتي وحما قبطان والظلف فرديان ويزداودان عيد يكونوا لي بس إذن هؤلاء نسميهم معكم سؤالي وأسرة غير سعيدة غير ناجحة غير ناجحة حبسة تجيان سكولة كتعطنيان وتسويات كوبدوي في أفريقيا نوي كجيران في الغرب نوي كجيران أسرة الله بعد قرضة إن يكسر ليس ومحي وسعيدة غير ناجحة وأسرة هب يكون نور بوفر عسنين مسكيت كيسكون راعان جمعة هاي تجان تراويح يتوكدان قرآن كي أخريان ويسسيارتان ويسكور حيان لكن وناجحين ما من الناس كل كبرك تعيالك لبدا والدنا منه هرمان ما قالوا ماشي بالستر فديا waxa la iska noolyahay maxaan ku idhaahdaa gargaarka dawladda afrikana waxa lagu noolyahay gargaarka tolka ha ila tolkiiba dawladeed
صح. وريرك الشيخ وما أنت ويبهين وحصة ورية ولا صور ورية مكت ريرك يبل مركا وعقليات يعني العب على الناس صلوا صح. أوكي تاسي وحو إيجر كسر رياؤهم يا كي هوسه كي هوسي قيمة صدح هذه وحويان وعكسية وناجحة غير سعيدة وأسرة نجحتي روسية قوليستي اسكولا كودا بحدي لعق بدن هيستا قرية ديستي لكن هبي معها دقال ما كان دحيا أبيك أقل كواحد كان عمارة دقال كي قبوباي مريكا كي روش كل دحيا الإسلام هذلو هذه الإسلام هذين وحلا سكول هذا اللقط وده هالجبادة توتر باجراء علاقاتك ومتوتر dadku waa xisaab ku wada joogan lacagtii xalay ku dhibay meeshaad geysay ma garanayo waxa uu dirtay waalidkaaga inta ani waalidkayga ma dirin wali waa maxay lacagtaaga geysay waxa lagu xisaabtamaa luqatun ghayra hub okay warka qoladaasina waa qolada saddexaad qolada afaraad waxa weeyaan waa usratun sa'iidatun naajihatun wa usrat maxaa inay habya isla markaana naajihada أسرة ومحي مركاسي وأسرة أفر أريمود اللي فهمت وين وصوب كوبيا سي تحديات كي هذه النوشة توقرتك كو وعايز لفهمان الأهداف وحي كجوابان لما هذا البيت قولي المحانو سميني أقل كان محانو سميني غير كان محوكا شقينا يا سؤال شابي جوابها يعني أوكي مركا وحاجة وحرادو التفاهم في الأهداف وجدوي قال سلفها سيئة أرنت اللبات الرركة سلفها سيئة ومحي وحال سلفها سيئة التفاهم في الأدوار طفول بالدور بوليه ها أبوه دور بوليه هي دور المشرف برضه مركا قفكا شغل له ديبو أبوه إشراف مسمية ضشوا أقل كجوجا تفاصيل شنو رشة مقلو الماء هنا توقف هو قال بيد هذا مارت محمد كاركي لعقته هجيسي فرق هجيسي محل هيسا دولار كي إسلانتا ما هيسا وح مقلو لكن ضشوا كإيطاليا خلطوا إيطاليا وناقضوا أمرا ضشوا كلا صعدا وح بدأ بيسلوسيا تغابي بدأ والتغافل ووح فعلا إلا يصدقون عيال كاجل اسمه تاجو كقول دقن بالس كاركا وح بالسعون أضو عسكاركا مركز تاسوا مهم دور بو أبولي هو يدو دور بلاد وبتكون الدور بلين نيول بينو دور كيسا كرتو واحد هذا تفاهم ولا سلفها سجينا لاسكم ما قرقرة سيدا ما وزارتها هذا الشقة دو يتابع ماها لكن ولا سلفها وتفاهم دور كي أنا كسب حياة وتابو أنا أباي يجيب هي وفهم سنة أنا إنا كي يتابع بهنا إنا سيتابع بهنا هو إسلام تتابع بهنا هو يدي ده شو أنا وين وحبي يجيب بهنا ينو حانو يجيب بهنا ودور نلشوا أوكي تصدحات إلا سلفها ما ومحي وماشي الورد التصوير كله التفاهم المالي في ناس يركب وين الفهم اوكي التفاهم معانا بحنا المالي ورحولها غوريغا ايمانيا سيدان او استعمالنا غوريغو وا دولد وانو يشا بجت waa in la dejiyo sidaan uga hortagna waa in la raado mashaakilka waxa weyn ugu dambeyn maxay التفاهم التربوي والجنسي وإذا جرتو إلا إسلا فهسن يهي سيدا وحلو education سيدان قوبتك بربارنا محاك بربارنا والإسلا فهم إيو تودن بيسوا محي سكس جنسيga وميلها الصوماليdu ay ku jabteen okay oo iraadin maxaa waxa looga sheekeynaa yacuuzu billaah bidadaano hadana marka ay doonayaan wax ka bartaan waxay wada 10 ka wada qaataan maaratay googolka iyo tagaani ay weydiiyaan maaratay 10 badan diintooda inay ka bartaan mar raba youtube-ka wixii la mid ah okay intaas markaan ka soo baxo wixii keenaya saacadada iyo najaaxu wata taxadiyaadkaadii weydiisay walaalkayo إن هيست أنك محان كجبحينا سومالدو وإني سميسته صدق بروجكت صدق ذا بروجكت هذه اللي هلا أنا وحنا مسيرة هاي إن سومالدو بحيسه بروجكت والبا وإني قول حباران كمشروع ومشروع فكري وين ليش سومالدو وإني يشان فكر كاس وإنه يشا صدق وإنه كنت تجنادو ويروحوا لي زي مشروع علي صدق وإنه كنت تجنادو كو وإنه كنت تجناد الدين ولا فهمه وإنه كنت تجناده ماشى اللي قلنا ليه ولا فهمانه وإنه كنت تجناده صدحات مشروع فكري ماشى اللي قصعده ولا فهمه صدح ده مشروع فكري وإلا قسميه أو علوم مفكرين يصوب حنا واحد كشة كيسا لبس الصومالي واحد بانتاي مشروع أسري مشروع قيسك ده بروجكت وينه باي مشروع
qoysku ma wax laga hadlo uno qoys arma waa mashaariic صح marka mashruuci qoyska waa inuu jiro masaajidu waa inay waxa ka hadlaan iskooladu waa inay ka hadlaan culimadu waa inay ka hadlaan aqoonyahanku waa inay ka hadlaan dad mutakhasisiin waa inay jiraan oo arintan maaragtay ku qaata shahaadooyin sare master iyo doctoraa ku qaata waxaas mashruuc usari waa in la sameeyo ugu dambeyn waxaan baahanahay mashruuc xadaari annaku laba shay baan u baahannahay markaan geeska afrika joogno waxaan u baahannahay inaan samayno xadaarad islaamiya oo soomaaliya oo geeska afrika sare kacda ilbaxnimo waa inaan samayno marka aan joogno yurub iyo maraykan iyo kanadana iyo australiyana almushaaraka alxadaariya inaan ka qayb galno civilizationka meesha ka jira waa inaan ka qayb galno mushaaraka waa inaan samayno sidii ay sameeyeen saxaabadii ardul xabasho tagay sidii ay sameeyeen culumadii andalus tagay ee dowladda islaamka ka taagay iyo kuma samaysan dowlad xadaara islaamiya annagu hornaa moogtahay anigu waan ka baxay kelmadda andalus waxaa laga sameeyey xadaara insaaniya laga sameeyey waxaa laga sameeyey civilisation humanitaire bini aadankaa samaystay kristankii deganaa yahuuddii deganayd iyo muslimiintii meesha xakumaysay iyaa isla dhistay sida hindiyo kale hindiya waxaa laga sameeyey xadaara insaaniya oo maanta handuusku ay ku faaraan ay dhadaan sideedii qarniya muslimiintuna xakumayeen xadaaro weyn baa la sameeyey idan waxaan u baahanay maanta dadkeena ingiriiska jooga inaan ahaana maaha dad geerasha ku nool geerasha darafyada fadhiya maaha inaan ka soo kacna darifka oon bartamaha imanno oon mashruuca ka qayb galno socda waddanka ingiriis waa inaan ka aragno soomaali mashruuca xadaariga dhisayo islaama oo miskiidka tagaya oo soomaya waxaasoo dhan intaasi waxay noo keenaysaa taxadiyaadka inaan ka hortagno ugu dambayntii waxaad i weydiisay waalidka maxaa tarbiyadda horta waxaan kuu sheegaya walaalka sheekh aad baa ugu takhasustaa adigu arrintane anwaacu alwaalidiya kuu sheegaya la alwaalidiya waalidnimadu waa saddex nooc صح الوالديه البيولوجيه qofka waalidka ee biology ahaan physics waalidka ilmaha islaanta kaga soo tuuray waagi Soomaalida ma garan ama islaanta ilmaha u keentay assalaamu calaykum wax kale oo ka dhaxay ma jiro imse ciyaar leedahay 6 baan leeyahay 7 baan leeyahay 12 baan leeyahay waa ku faanaaba ciyaar ka badan yaa marina shuhuuda habla badan baa leeyahay okay waxaas waxa dhada waa alwaalidiyya البيولوجيه okay alwaalidiyya thaniya waa maxay والوالدية الثقافية وما هي والدية ثقافية ووالد كثقافية تربوية ووالد كإلمها إنه كلتشر كيس يقول لي بدونها تربية دي سي إنه سيدونها ووالد كمسؤولية وين درامية ووالد نوع عصنا ونوع الصومالي ده حتى قاركودو بديهن الوالدية الثالثة وما الوالدية الإيجابية ويا لبدا هورك أبوه هو نيجاتيف كلبادنا هو نيجاتيف حسابا كنيسة ضحادنا ووالد إيجابي وبوزيتيف كنيه معي والد إيجابي ووالد متفاعلة ووالد المهلا النور المو هدو قاجونا يا دراميا هدو درسية هي دراميا هدو مروونا يا دراميا وديدا يا علمي سوينو مارتين روشا كدعو كسو علينا يا لا تهلينا يا لا تشنا يا وحفهما يا لأويا لا فرحيا لا بحيا لا شهعبيا مارتي قرب كزوجو سكو أرنيا ودياريا نولش ودياريا كعبسينين أو كدهين بريتون واحد كسوقي وحوين لكن واتكبح كرتها نمباتها قبض باتها إمارة إنم باتها هو ينقود ديارنا هو يوم أكثر وصالحة مجتمع وحطرتها علمية لتها هرمر قادة آباد نقدوتها صالحة مجتمع أنفعة وحاس أردن وإنا والد وإنا ضغطين بوزيتيفا وأن نقول والد ثقافي أونا نقل كيبا هالليسي الصومالي مقرنسي علمية عبسي بقرن نبا مارتي إنجليش وباتكو هالليسا فرنج وباتكو هالليسا مارت أفكاري هو يود اللودي وحاول بدل مقالة دين هذه واتكب حدي صلاة ما تكن قرآن كم ما تأخرين إلهي كما عبسونيسي المية رعب سباق لها لكن هذا كلاين صلاة ما تكن صلاة هذه أن تكنوا صلاة دي ويجاردي أقل كجوبي صلاة هل فهموا مسكين خلاص كون راعوا وقت ما خلاص كون هلو مارت القرآن خلاص الآخر يوم وقت خلاص كون هلو هل يسفهنسيو يعني واحد القرآن كهكدي واحد الله ذو الماء سينس دينته واحد الله ذو الماء سينس هكدينا واحد الله أنت هكدي دينته وزنوا بهاي لأن إلهي بسود دينته لبدينا بين نقب حسن إلهي هو مجرد إلهي أديك معها أدوها مثل دورك إلهي سبحانه وتعالى لكن واحد متجاوب دورك متلقي عن الله إلهي إن الدين تكسو قادسين فهم يسين وقرآن كله كل ميسين يسقون إنه دورك عياره وقشك أنا عيالك وحنا قشك يا مركان دين تفهمي إن اللي يرانا بس هو مري ومارت النشأ كدعي قاري لكن دين تبي بدسي أو مع علماء أنهري مركان بدبادي أنا سهري مركان سهرينا أنا هرمر قاري
horumarkan aad arkaysid aabahay inuu sheekh noqdo uu caalim noqdo uu diinta barto uu dadka baro uu ummadda u noolaado uu siyaasad galo uu dhaqaale galo uu fikir galo waxa uu keenay wax weeyaan risaaladda uu sido risaaladda marka ila faham weeyaan marka buu ilmahaagina kula fahmi oo kula qaadi marka alwaalidiyya iijaabiya waxaan baranaynaa ku dheeraaday su'aashaadii laano su'aal waxay ahayd meesha maartay nin tababaraa ka imatay ama sabtahay جزاك الله خيرا شيخ ما أملينا إن هالحلقة يلا يطون ماركتي طبعا علمي قاعد لقدر ربيو إن شاء الله تعالى وحربي ولا لها إن أشيغو إن شاء الله تعالى إن أم بالله بدونه كورسو بيشان دحدي ذا أونلاين إن شاء الله تعالى أي دعي كرتو هديو أبا إدمو شيخ اللفتقي سئنا هلو شيخ waxaan insha Allah ta'ala siinaya anigoo aad uga taxadirayo waqtigaaga in aad dhaqaaqdo insha Allah ta'ala 15 daqiiqo walaalaha cidii na soo wici karta ee u baahnayd okay in su'aal ay ka faa'iideystaan fursadan aadka u qiimaha badan leh ayaan rabaa in aan siiyo insha Allah qofka u horeeyay soo wacay inta ku dhageysanaya walaalaha soo wacay marka okay walaalka u horeeya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن walaalka codsanaynaa magacaaga meeshaad joogtid inaad noo sheegtid iyo عليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal waxaan joogaa magacaygu waa Abduwali waxaan joogaa Austria dhammaantiin aad baan idin salaamayaa labadeeda sheekh runtii barnaamijkan waa la socday waan daawanayay كل فكر أيام ربينا نجاح سياسة موضوع يرى عنك بويسكي كسابسن مركا أرتاس ربينا حقين وأدقوا تلسين إن أكون قضاءه جزاكم الله خير أرتاس إن شاء الله مركا ديارتي إن شاء الله نجلس وسعسيو عبد الفتاح أدبل ما سته ورالكي خير الله كسيو واد هاي ستالله مركا يجوا هذه لسه حرير دارتا وحي بريفي أما خاص سي خاص أما نيجا أما الشيخ إن شاء الله تعالى أدبل ما سته ورالك عبد الفتاح اوكي ولكن جزاكم الله خير ان شاء الله الى هي الطريقه حتى ادت تسوسين ان شاء الله اني انا اباركك اجركك الى نسيات بارني سلام يا ولاله جزاك الله خير aad buu mahadsan yahay walaalkaas Cabdi Fataax anigoo ka dhaqaaqay su'aashiisa walaalaha waxaan ka codsan lahaa wixii khaas ah in ay yaani ani soo wacaan hadii ay baydmo si looga faa'iideysto jazakumullahu khairan aad buu mahadsantiin السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام شيخ أحمد جوهر. أهلا ومرحبا حبيبي وشيخي الشيخ محمود أبو طلحة سودو همين دويد بان شيغي هذا الكاغي أها إلى التالي أن كل التالي مقالنا يساتلها. شيخي نيشي عبد الرحمن بشير بنا لجوغا مركا فضل حبيبي شيخ سودو جزاك الله خير. صاحبكي شيخ أحمد جوهر runtii hadda anigoo ها كوسع شيخ السلام عليكم شيخ الفاضل هذا ما مقشان سيف يا عمك مو مقلينا والله قوضة مقلا شيخ اهلا وسهلا شيخ بشير شيخ عبد الرحمن بشير وصاحبك ما شاء الله اطوى كل المي جزاه الله خيرا نحبه في الله شيخ احمد جوهر جزاك الله خير والله hadda anigoo ka baxay shaqo dibus ka baxay oo baan soo galay subhanallah markaa ma la kulmay aad iyo aad qodobadii sheekhu inta hadda ku soo gaarin runtii aad baan uga faa'iideystay waana qortay waana jeclahay inuu ii ogolaado inaan sii gudbiyo ma sha allah anwaacu maxalliga كان الوالدية runtii aad iyo aad baan jazaa allah khayran marka waxyaalo badan ka hadasho oo hesho عدة وتقسيمتين أبى لو فرحيسا شيخنا تخصص وكل هاي يعني وقت إذا كنت عامله أبى لي سلامة يا وحنسوي شيء لنا مرك برنامج إلا سماية علماء الصوماليات إن الله قبته مؤتمر ما دام ضدك عامض الله قبته إن علماء الصوماليات وضد مؤتمر أيبوا قبصران سعونا يا أبو يران حلوي لكن إما إلى كندا مريكا إلى أوروبا إلى أستراليا كدبنا لغو نقاشو
mawduuca usarka iyo tarbiyada arrintaas ayada aad baan u xiisaynayaa waana arrin la suurtagelin karo waan ka baxay dadka kale majaalka siinaya aad baan idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu sheekh maxamuud aad baad u mahadsantahay jazaaka allahu khayran aad baan ugu faraxsanahay inaad nala soo xidhiidho xabiibi in sha allahu tacaala adigana waa lagaa faa'iidaysan doonaa biidni illahi alkariim dabcan sheekhuna wuu maqlay waan rajaynayaa waxaan u gudbayaa walaalka kale in sha allah السلام عليكم magacaaga meeshaad naga soo wacday ku soco ku soco hello waa ku maqlaa walaal meeshaad calaykum assalaam magacaaga meeshaad nagala soo hadashay walaal cabdi yusuf ayaa jarbalkan jooga way salaamaya dhamaantiin adiga iyo sheekh cabdiraxmaan ba allah ku salaamo cabdiyo ku soo dhawow عبدي واكو مقلا ولا كسعو سؤاشا اما طلبه waxaan doonayaa inuu sheekh وكا قانون مالينيا walaalkaas السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة اي walaal meeshaad naga soo wacday iyo wixii aad rabtay inaad ku darsato magacaaga magacaygu waa Camir Cabbaas Cumar waxaan Camir Cabbaas Cumar cali cabbaas ayo walaal ku soco waxaan ku noolahay waddanka Faransiiska aadaan ugu faraxsanahay barnaamijkan inaan dhegaysto maadaama nin dhalinyaro ahay oo dhalinyarada Soomaalida qurbaha ku nool aan ka mid ahay ايه علماء الشيخ أحمد جوهر والشيخ عبد الرحمن بشير إلى هذا الفيديو مركب الرئيسة مركب لبعض أنت برنامج كوي جوهر مري هذا مركب سيدي كوبي كبرنامج كوي خرج ku soo caliyo waxaan jeclahay in looga hadlayo guurkaan jeclahay in looga hadlayo qoyska sida qoys macnaha waxaan caliyo kaa codsanaya khayr allah ku siiyo haddii aad su'aal qabto ama aragti aad ku darsan lahayd kolley waxaa sawiranaya in ay inta badan ku dhaaftay laakiin cashar badan ayuu sheekhu caawana siiyey dib u dhegaysa cajaladda haddii waa la yidhahdo haddii aad hadda su'aal qabtana soo daa insha allah si walaalaha kale uga faa'iidaystaan اوكي وكغو walaalkaas dhima laha sheekh waan ku soo laamayaa arintii sheekh maxamuud abu dalha uu soo bandhigay sheekh cabdiraxmaan wad maqlaysay in loo baahan yahay in la helo culimadu in ay iyaga laftigoodu mu'tamar samaystaan marka sheekh cabdiraxmaan arintaas ka waran ilaahay ku nuuro والحمد لله walaalkay sheekh abu dalha waa culimada ahmiyadda weyn siisa dhismaha qoyska Soomaaliyeed wuxuuna aad ugu maaragtay mutakhassis yahay xalinta mashaakilka waan ku farxaa inuu jiro nin Soomaaliyeed oo sidaas uga qayb galaya mashruuca Soomaalida waana sheekh aan ku kulannay Canada oo mar isla jeedinay muxaadaro maamba nadoo aan ka wada qayb galnay aad baanan maaragtay ugu faraxsanahay inaan isla galnay mawduucaas quruxda badnaa markaana aan ku bartay sheekhaas abu dalha oo horey uga aqaanay maaragtay warbaahinta alxamdulilah ilaahay ha anfaco wuxuuna ku jiraa dadka dacwadda u shaqeeya iyo diinta ilaahay iyo qoyska Soomaaliyeed baadadeeda marka mawduuca uu soo bandhigay aad baan u taageersanahay waxa weeyaan mu'tamaraadku shirarku adduunku wuxuu ka bilaabmaa caam wuxuuna noqdaa khaas adduunku oo dhan si caam wax loo soo wadaa marka dambe si khaas loo galaa marka waxaan u maleeyaa waqtigii ay culimadu sheekaysanayeen ay xataa khitaabka ay u sheegayaan ummadda ay isla eegayeen hadda yaa la gaaray sax wey marka inuu nimba meel ka hadlo kulmo wax ka diyaariyo in laga bislaado oo wax la isla garto mashaakil isla fahmo ay culimadu shiraan xataa mu'tamaraadka waaweyn la qabanaya culimadu imanayaan ina haamishkiisa lagu qabto shir culimada u gaara
صح وي oo culimadu waraaqada soo diyaariyaan ay mashaariic soo diyaariyaan aad buu fiican tahay waana ku taageersanahay waana soo dhaweynayaa intii karaankayga ah ee maaragtay caqli iyo iyo maaddo iyo maalba iyo caqliba wixii aan ku dari karno waan ku darana insha allahu tacaala diyaar baan u nahay insha allahu tacaala waan aad baan u farxay جزاك الله خيرا شيخ عبد الرحمن أنا لفتيجو آد بانو غفر حي شيخ محمود أرنتا سوسوجي دي محايلة أنت بدن دتك عامضة الله قبتها وصدا آد شيكتي مؤتمرات كعام كلا قبنا يرهنتي آد بي مهم تهاي فقرة إن أي جرتو علماء أي كولا هلان طبعا وراغ دا أي صوت ديارنا يانا بروجكت إنه كصوب بحضر طبعا هالك بروجكتيات تريسي آد مهم وأرهنتي أو أن لا يهي runtii waa in ay projectyada jiraan hay-aad qaata oo maaragtay iyagu dhabarka u rita oo ku takhasusa si ay wax uga dhisaan dhinaca jaanibka ay u xambaaraan walaal baa halkan ku jira Sweden naga soo wacay walaal magacaaga iyo dabcan meesha naga soo wacday telefoonka noo sheegay ku soco alaykum salaam magacayga waa Faisal Hussein Ismaaciil waxaan joogaa Sweden waxaan salaamayaa معلنا إياها جون هذا معلنا يو أحمد جوهر أصنع في ثم عقلنا جهاني وقرنايا لا أنت كدي فيصل والله ما تصدق ولا لك أنت نسبتي صبرتين وكاع ما هتعلني يا فيصل جزاك الله خير كسعوا لا أنت كدي وحويا وحنو بهنا هي أنت علماء بهنا هي لا سعودي سأمدا واقع يكونوا لهين معها أنا يوكس تنور سلام مركو بعرف كده يوكس أساس مثلا كان وديني يا شيخ عبد الرحمن بشير أي ضغطني في سنة دوني وفايو حنو إنه بجواب درب وحويا صدق والد بكها شيء والد بيولوجيا والد ثقافة والد إيجابية إن يا ويل أبا إحنا راح ويل يكبر بس خبا وحوي سكيل يلوين إن كمثلا بيجي سوسي عن مشاقيني عم بنخرج كدالين gabadhna saasoo kale ninkeyga cadilan kadib waxay iibsadeen labadooduba suuqay tageen oo waxay iibsadeen laba biyo kala iibsadeen qof saddexaad bay ku shubeen waalidka xaguu soo galaya okay waxaan u maleynayaa Faisal in mawduuc kale oo aad gashay mawduuc ku saabsan fatwo u baahan baaritaan u baahan waana su'aalaha casriga ee hadda jira dabcan waana laga jawaabay culimo badan way ka jawaabeen marka sheekhan doonaya insha Allah ta'ala inkastoon aad uga codsan lahaa walaalahana soo wacaya inay ku ekaadaan topican caaw ka hadlaynay oo ah badbaadinta qoyska Soomaaliyeed ama qoyska muslimka qurbaha iyo geeska Afrika ka jira si yaana mustaqbalkooda loo xifdiyo sheekh fadal insha Allah aad bal ma santay Faisal walaalkay waa dhageysan insha Allah sheekh okay codku inkastuu hoos igu yaalay Faisal oo jooga Sweden waxaan malnayaa Faisal aan aqaanay buu yahay baan u malnayaa dhalinyaradii qaahiraan isku arnay Djibouti iyo aan u malnayaa marka insha Allah waa ku salaamaya haddaan ninka tahay Faisalow Faisal kale haddaad tahayna walaalkay unbaa tahay oo Faisal Soomaaliyeed isna waan salaamayaa marka mawduucan ku saabsan fatwada sheekhu uu soo bandhigay ina ku soo bandhigay dhalinyarada waxa weeyaan culimadu way ka hadleen si casri oo cilmi oo shariicada islaamka usuushada waafaqsan baa looga hadlay labada qof hadday isku dhali waayaan waxaa la yidhahdaa cuqmi waa madhaleysnimadu waa maradkuna daw uu leeyahay ilaahayna wuxuu ku yidhi maaragtay qur-aanka nabigu wuxuu ku yidhi xadiiska nabigu wuxuu sal slam ilaahay cudur ma soo dejin ilaa wuxuu u soo dejiyey dawadiisi hal lays daweeyo marka waa la iska daweeyaa maaragtay madhaleysnimada in la iska daweeyana diintu way noogu yeedhaysaa okay taas waa midda koobaad waxyaala la iska daweeyo waxaa ka mid ah inaa ninka biyihiisa hadday daciif yihiin la barwaaqeeyo gabadha haddii uuna shaqaynin maxaanku idhahdaa magaleenkeeguna la eego hadday baydadeedu ay shaqaynayna amba ayna kulmi karin asbaabaha keena cuqmigu way badan yihiin waa la diraaseeyaa marka taasina waxay u baahan tahay diraaso cilmiya laakiin arrinta uu sheegay walaalkeen ee ah in isaga iyo iyada biyo aan ahayn inaa maaragtay biyo kale inta lasoo qaado saddexaad wax lagu dardaro islaamku ma ogolo islaamku uu ogol yahay fiqiga islaamku wuxuu ogol yahay
لأنه waxaan ognahay horta islaamku marka uu zinada xarimay waxa kamid waxaan u xarimay khaldu al-ansab inay isku dhacdhacaan abtirsiintu oo la lumo marka waalid waxa jira iminka soo sheegay biologiya iyo waalid ilmaha leh waa saqaafada reer galbeedka yani ilma la soo kareystaa jira waxa la kareystaa caloosha hooyada waa la kareeyaa iminka waxaasi shareecadeenu ma ogolo laakiin shareecadeenu mar qoratay ogoshahay marka ma inii sheegaya waxay ogoshahay marka uu ninku laba naagood qabo oo labada naagoodna ay wada yihiin xaaskiisa marka ay xaaskiisa yihiin isaga biyihii inta laga qaado mid ka mida labada haweena laga soo qaado beedkii oo tii bugtay marka lagu shubo ama loo abuuro ama loo sameeyo taas islaamku uu ogol yahay leanno waa laba dumar uu qabo beedkoogii iyo isagii biyihiisi laakiin gabadh una qabin beedkeega iyo biyihiisa la iskuma dari kara shareecadu way xarintay haddana halkaa dhibaata ka dhalato waxa ka dhasha ilmaha yara dhalan doonaan labadii waalida loo kala qaaday ma waxay noqon doonaan tii hooyo noqonaysa ma tii laga soo qaaday beedkeega unuga laga soo qaaday maxaa dhahdaa maaragtay beedka naalada ukunti naaladii ha laga soo qaaday ukuntiya naaladii ambase tii lagu shubay ee ilmaha xambaartay tii noqon doonta waxa weeyaan culummadu laba madrasadood bay u kala baxeen culimmadii waaweyn sheekh qardaawi sheekha dhaaday culimo ku xidhan waxay dhahdeen tii dhashay ee xambaartay leanna ilaahay wuxuu ku xidhay hooyanimada muxuu ku xidhay uurkuu ku xidhay xamalathu ummuhu wahnan xamalathu wahnan calaa wahnin hooyadii waxay xambaartay dacfi calaa dacfin okay laakiin ilmaha yar asalkii dhiiggan uu ka qaatay iyadii uu nuugay uu cabbay uu ku dhex samaysmay laakiin najarkiisu wuxuu ka yimiday korosoomkiisa wuxuu ka soo qaatay hooyadii hore ee beedka lahayd marka maxay noqon doontaa baa hooyadii horena qaar waxay noqon doontaa umur ridaaca hooyadii nuujisoo kale iyadna xaaraan bay ka noqonaysaa ubadkeega waxoo dhan waxaa ka dhalanaya aasaar fiqiya ka dhalanaya qaar waxay dhahdeen may hooyada asalku waa tii beedada bixisay tanina waxay noqonaysaa hooyo nuujiso aniga waxaa raajix ila ah baan u malinaya marka culimmada wada akhriyeen ra'yiga dambe ah ra'yiga hore ah inay tii xambaartay ay hooyo u tahay tanna ay bixisay uun gargaar ay siisay hooyadan ilmaha weyday ay gargaartay marka laakiin asal waxa ah labada qof ee laga kala qaadayo inay ninku wada qabo hadduuna wada qab xaaraan weeye wallahu aclam جزاك الله خيرا شيخ aad baad u mahadsantahay ilaahay ku nuuro waan soo gabagabaynaynaa insha allahu tacaala waxaan mar kale xasuusinayaa walaalaha pagekeena happy marriage academy wixii su'aalo kale ay qabaan in ay kusoo diraan maadaama waqtiga cidhiiri uu yahay sheekhuna uu u socdo muxaadaro kale oo aan rabno inaan fasaxno laba sheekh ba iigu jira halkan abu hurayra iyo sheekh yaxye waxaan leeyahay sheekh yaxye iyo rasug insha allah ilaahay ku nuuro abu hurayra maanta dhan taagnaa oo isugayey marka abu hurayra asalaamu calaykum وبركاته شيخ احمد الله يمقلاه waa lagu maqlaa sheekhuna wuu ku maqlaa walaalaha caalamkuna way ku maqlaan ku soco xayaak allah xayaakum allah ما شاء الله خيرا هرت الله سبحانه وتعالى هذا ذلك السنه waxaan u mahadinayaa alle waxaan kaloo mahadinayaa fadiilada sheekh doctor المربي شيخ عبد الرحمن بشير حفظه الله جزاك الله خير walaalka sheekh axmed jawhari oo noo soo geliyay fursadda qaaliga ah sheekh su'aal baa weydiinayaa ana aaminsanahay inuu sheekhu ka dharagsan yahay oo ah sheekhana alfaadil waxaan badanka isku daynaa inaanu isu keeno ku soco aan isugu keenin mujtamaca qaarkoodna mararka qaarkood ay konferenskaas uu gaarayo dhowr kun oo qofood laakiin anigoo ah dhacam isku dabaradaha barnaamijyadaas oo kaleeto waxaan qabsadaa carqalad ah in shakhsiyaadka anigu aan ku soo xusho inay kartidooda iyo aqoontooda aan isugu keenno laakiin qaarkood markaa u wacdid ay ku oranayaan culimada oo kale tusaale ahaan waxaan qaadiyo culimadeennii qaali ha noqdo caawa culimada intaan ka arko baan ka sheegaynaa in la yidhahdo tusaale ahaan shiikaasi waa fiican yahay arrinka waa fiican yahay laakiin firqadaasu dhabarka ku hayaa meesha ha keenin anigana waxa ii muuqda qof walba oo bini aadama inuu faa'iido u leeyahay firqadiisa iyo qabiilkiisa iyo nacam meesha uu kasoo jeedo wax badan anigu waqti kuma lumiyo waxaase ku lumiyaa inay tiraahdo washiiqani ummadda ayuu anfac u leeyahay dhinaca rucaantii guurku ka hadlaa ama qoysku ka hadlaa oo tarbiyadu ka hadlaa laakiin firqadu aaminsan yahay iyo wax badan muhiimadda ma saaro صح وي magaalooyin
magaalo ka mid a magaalooyinka ingiriiska oo kaleeto 70% carruurtii waxa la leeyahay waa single mothers marka dhibtan haysato waa dhib aad u badan marka sheekhan alfaadil culimadeeni waa weliid baa caawa maanta sadcaana ku helay sidee baa loo saari karaa in dadka laga dhaadhiciyo qof walbo bini aadan waxyaalahan isku diidanahay waxaa ka badan intaynu isku raacsannahay ee danta laga wada shaqeeyo jazaaka allahu khayran abu hurayra aad buu u mahadsan yahay sheekh maxamed ibraahim cawad waa nin aad active uga dacwada dhexdeeda culimadana link u sameeyo isku xidha runtii arrintan uu sheeganayo dhowr jeer ayay soo waajahday isaga waxaan is leeyahay waa arrin masiiri u ah ummadda soomaaliyeed ummadda muslimiinta meel kastoo joogaan sheekh cabdiraxmaan kolley su-aashaas waad ka dharagsan tahay wax badanna waad aragtay tafadal mashkuuran sheekh dad kalena way ku jiraan adigana waan ku fasixi rabnaa insha allahu tacaala xayaak allah sheekh الحمد لله هرتا وأد بما سيها الشيخ محمد إبراهيم والله يقعنا أبو هريرة حفظه الله وكفر عصنا هاي إن كم مقلو سؤال ساء مهم سن ولا هرتا ضد بلشدو مركي كوب عيسو وحي مرتاسدة أبدك أكرتا وحي مرتاسدة مرحلة دور مرحلة لين هذا مرحلة الطفولة يا مرحلة ده مرحلة المراهقة يا مرحلة ده مرحلة النضج صدحنا جرانجرو iyo bulshadu martaa akhi waad ogtahay sheekh abi hurayra marxaladda ubadnimada waxa weeyaan waxay keentaa inuu qofku xadido inuu qof uu dhageysto oo inta kale uu dhageysto qofku aabihii iyo hooyadii uu macluumaad ka qaataa laakiin dadka kale kama qaato iyo macallinka casharka u dhigan marka uu qofku marxaladda dhaafo oo muraahaqa gaadho sheekh buukar iyo rasul kala marxalad la yiraahdo inuu isagu uu is arko uu is cajabiyo uu dadka dhageysan waayo marxalatu nudjigana wuxuu gartaa inuu qofka kastiba wax ka qaadan karo miisaan wax ka qaadan karo kaanaku imika waxaad moodaa marxaladda saxwada baraaruga islaamka ee Soomaalidu wuxuu socdaa marxaladda labaad ee ah marxalatul muraahaqa muraahaqadan waxay nagu qasabtay akhi fillah in aan isku xidhna qafasyo qafaska Soomaalida ma naqaan yani shimbirta qafaska la geliyo iyaan ku jirnaa qaar waxay ku jiraan qafas juqraafi ah anu reer Djibouti baan oo sheekhyada reer Djibouti baan dhageysan anigu reer koonfur baan oo sheekh Banadiriya ya baan warka ka qaadanay anigu Somaliland baan ahay oo waqooyi maxay Somaliland baan oo sheekh halka baan dhageysanay وهكذا ومد وجغرافي مد كلا jirto waxa dhada madhabi xaraki loonkaygu midabkaygu anigu waxaan ahay nin suufi ah culimada ahlu sunna la baxay suufiyada baan dhageystay hay keenin sheekh shibili iyo hay keenin iyo maaragtay sheekhyada salafiyiinta aniga ay maqashiin booran mid kale wuxuu leeyahay salafi baan ahay ma dhageysto mid islaaxa amba mid maaragtay tabliiqiya ama mid khuraafi oo suufiya anu dhagahaygu umada loolaan booran mid kale wuxuu leeyahay anigu islaax baan ahay oo nin maaragtay siyaasi oo ikhwaan muslim baan dhadaayo fikirkii iyo alaab baan ka shaqeynaayo maxay sheegayaan qolooyinka yaryar ya salafiyada meelaha la meeraysanaysa bidca iyo dalaal la meeraysanaysa anigu waan dhagahaygu umada loolaan buu ku dhihi waxaas oo dhan waa kibir waxaan u baahannahay waxa weeye inaan is dhageysano weeyaan nin kastoo sheekha mashruuc buu sidaa anigu fiqi baan ka dhageystaa sheekh shibile waxaan u arkaa inuu yahay culimada fiqiga waliba shaafiiciyada horeyna u dhigatay imikana usoo shafaatay iyo maaragtay salafiyada waan dhageystaa culimo kale oo ahayn sheekh ibraahim dasuuqi sheekh raado tara oo islaaxa yaan dhageystaa sheekh qutubi badan baan ka faa'iideystaa waxaan dhageystaa anigu maaragtay sheekhyada tabliiqa dhageystaa sheekh ismaaciil baan dhageystaa oo aabbaha tabliiqa geeska afrika ah ruuxaaniyadiisa sheekh cali soofi baan dhageystaa cabdirashiid oo maaragtay qaari weyna oo ku jira culimada qiraa'aadka adduunka islaamka ugu horeeya laakiin khuruuj ah oo tabliiq ah yani qof aad wax ka faa'iideysaneen ma jiro laakiin waxaan u baahnaa inaan bislaano dee ardaydeenana waa inaan bislayno ardaydeena inaan ka dhiganin ninba inaan xir aan xeraysanay xoolo maaha dadku xoolo yaroo meel ku xeraysanayna maaha inaan taa dhaafno weeyaan marka aniga waxay ila tahay mujtamaceenna soomaaligii maanta waan isku baahannahay qof aan u baahnayn ma jiro qof kastina sax buu yahay qaladna uu leeyahay qofka qaladkiisana waan kaga tagaynaa saxiisana waan qaadanaynaa saan u arkayno
نبينا صلى الله عليه وسلم وحو نو شيغي بني ادمكو اني خطايه وخير الخطائين التوابون وحو نو شيغي امالغنا كل يؤخذ من كلامه ويترك نين والبا هذلكيسا وحنا waa laga qaadan waxna waa laga tagay illa al-ma'sum صاحب هذا القبر نبي الاسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم marka akhi adban saulahay aan kala faa'iideysano ummadoo dhan ka faa'iideysano ninka hatta nin cad فرنجيا أما مريكنا أما جرملا أو كنت تخصصي علمي قويسك أو كسو قدبنا مارة بروجكت في عن وإنا كقاعدة نويا وإنا ندقيس نويا وافق سن عقيدة دينا كقاعدنا وحا خلاف سنة وحن كنت صلة المهملات ماشي اللي يقول وحي مارة القشرة يا سكيردينا وسكرافينا مركا عقل عين كاس وإنا ومغربي إن شاء الله والمقصدين جزاك الله خيرا شيخ عبد الرحمن وحا كجرا خدك وقتنا يقولوا ويهدد waxaa khadka ku jira sheekh abukar xareed xoosh oo aan rajaynayo in uu geeska afrika ka soo galay salaamu calaykum sheekh abukar ma lagu maqlaa sheekh ku soco سؤال شاوي يا شيخ سؤال كلي ويديني يا إلهي حفظه إلهي هو بركيه نيجي إلهي ذيك عبار مريو يوم لا ينفع مال ولا بنون آمنت الله بقلب سليم وأحمد عجايب أنا فاهمي ماها أبوكر حوش صحوي سؤال شاوي ويديني يا وحوي شيخ عبد الرحمن كورس دان عرفتيوين كله لكن waxa aragtooyin ka maqan wax la tafaahumaad mushtaraka fi hayat zawjiyya ama maqla ku soo celi marka dhalinyarta laga hadlayo ka guurtanaysa nacam waqti xaadirkan ama dibadda joogaan ama ka joogaan aad u muhiima inay mar walba darsaan fahmaan waxa la tafaahumaad mushtaraka fi hayat zawjiyya nacam markaas عبد الرحمن waxa weydiinaya daayaha xafidee meelaha ama min daarada ugu muhiimsan ee tafaahumaad mushtaraka fi hayat zawjiyya ay ka dhacaan meelaha ugu muhiimsan axmed cajaayib aad baad u mahadsan tahay waa from boorama khayr allah ku siiyo waxaan aad kaaga codsanayaa inaad ku noqoto cajaladda sheekhu uu duubay insha allahu tacaala شيخ فرصة بنسينيا وحان ويريا ماركتي شيخ يحيى عمر وعاون نقصوا على دور جير شيخ صوع إن شاء الله سؤال شان رجيني أحمد إن وشيخ ويديي هدر بعد كجوابتي صدق دي بروجكتي اللي يسلفهموا أو أحيد وحي يسلفهميين قيس كي أها ناجحة سيدا أوكالة سعيد كأها مركا واكن شيخ يحيى السلام عليكم شيخ يحيى تفضل شيخ يحيى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ آدي آد بحبو السلامي شيخ عبد الرحمن الله يبارك فيك أنا شيخ جوهري أنا آدي آد بحبو السلامي علماء بدن اللي ويكون جرت اللين كان أن horta arrinta waxaan u riyaaqay sheekha maxamed aadan maxamuud soo jeediyay aba talaxa saxiix waa arrin aad u muhiimsan ikhwaani waxbaayi baryahan haddaad u fiirsataan meeshan aan ku jiro facebookan aan ku jiro laba arrimoodba aad iyo aad nologa dagaama mujtamaca islaameedna wuxuu ku dhisan yahay waa qoyskaas haddii la waayo waxa weeye mujtamaca islaamka la waayo iyo arinta labaadna lagala dagaalamo waxa weeye arinta diinta la yiraahdo diinta islaamka oo ilaahay jalla wa ala ba kor u qaaday ayadiiba markaasi waxa weeye lagala dagaalamay ulubiyaadka iyo rubiyaadka iyo maxaa ku dhaaday al-asmaa iyo maxaa ku sifaat jamiica hadi al-umur ayaa shabuhaat la galay marka anigu waxaan u arkaa wallahu alam sheekh maxamuud allah yajziyo khayr wa yajzi jamii'akum jabin ilaahay jazakum allah alf khayr ilaahay khayr hayda wa aamin ya ayaa in labadaas balniyaho loo sameeyo mu'tamarkan maxaan ku dhahdaa qoyska ku dhisan jamiic culamaa ku takhasustay arrintan inay hal asbuuc ummadaas islaameed ee la rabo in laga lumiyo in la kala saaro rag iyo dumarka maxaan ku
arrintan suuqa soo gasha ee lagu bootaynayo laleeyahay xataa dumarkeennii baa la rabaa inayna ku ekaadaan zawj keliyaata maahe lagu dhiirigelinayaa inay 10 ay soo maraan ama 12 ay soo maraan rag aan maxaa meesha ku haysan baa laleeyahay markaasoo keliyaata ku hayna ilaahay aakhir marka walaalayaal tawfiiqda Allah noo waafajiyo iyo arrin kale oo arrintan maxaa ku dhahdaa diinta xarbi xoog laga wado oo meeshan lagala xarbiyo marka labada arrimood ugu horeysa meesha ku jirta arrintan ka dheer maxaa ku dhahdaa Sheekh Cabdiraxmaan uu soo sheegayna marxalooyinkan waana run oo marxalooyinkaas waxaan u maleyn arrin Sheekh Cabdiraxmaan magaciisa wuxuu soo gaadhay barigaan 80 barigaan aan ka waday dacwada masjid xaaji diiday ayaan mar walba waxaan arki jiray dhalinyarta soo kacaysa in maxaa ku dhahdaa ku dadaalo inay maxaa ku dhahdaa aari jireen markaas aad iyo aad ugu xumaan jiray laakiin maantadan waxaan ogaaday marxaladan imika aan ku jirto waa marxaladii waxaan ku jirnaa ay u baahan tahay ummaddu laabudda tamati taxta maxaa ku dhahdaa qita'in waahid wa qita'in islam alkitab wa sunnah inay hoos yimaadaan ay kala faa'iidaystaan ummadda in maxaa ku dhahdaa si fiican loo soo dhaweeyo صح وياك qaarkood waxaad yaabaysaa xataa mujtamacii iyo dadkiiba waxay rabaan markay arkaan wadaaddo ku takhasusay mawduuc qoysaskii ama ku takhasusay tawxiidka ama ku takhasusay arrimahaas waxa dadka ay dalbadaan waxa la yidhaahdaa war ninkaasi ha naloo keeno masaajidkeena ha naloogu yeedho markaasaa dad meesha iska jooga odhanaya war hebel baan u diray hebel baa ka war doonaya hebelkii baa odhanaya dadkii way ka war sugayaan mar alla markuu kasoo walaa uu ku yeedhaa walaa shay kadib wuxuu soo noqonaya war sheekhii wuu mashquulayo waxa weeye waqti baa loo waayeyo uu iman waayeyo markaasaa dadkii waxa lagu qancinayaa in la yidhaahdo wadniyo aad baan uga xunnahay sheekhii niyo wiigadan ka cudur daartay walaalayaal arrimahaas oo dhan waxay hoos yimaadaan taxta qitaa'in waxay hoos yimaadaan alfikr walxarakaat walaalayaal ilaahay khayranna waa fujiye anigaygan saa kula hadlay sheekha igara fadhiye ee halkan aan ka fiirsanay sheekh cabdiraxmaan anigaa xaggaa ka waday xabsidaan ka waday isaguna halka kaluu ka waday dacwada hadda waxaanu isku eegaynay fikradaas waxay noo haysatay inayna kala dheereenaysa laakiin maantadan ilaahay jalla wacalaa markuu cilmigana baray waxaanu ogaanay qofkan iga soo jeeda ama dacwada wada inaan dacwad keliyaata aan wada wadno tawxiidka ilaahay jalla wacalaa aan u wadno fikradda oo keliyaata aniga xataa caqligayga wuxuu igu soo noqday marka aan galay jaamacadda aan galay waxaan galay jaamacad sanadan ee dacwa academy wax la yidhaahdo jamiica alxarakaat almucaasira lagu dhigo iyo aladyaana lagu dhigo kadib waxaan ogaaday culimmadan ku dadaashay diinta laga yaabaa maxaan ku dhahdaa sheekh maxaan ku dhahaa xasan albanna oo kaliya sheekh cabdulwahaab oo kaliya sheekh maxaan ku dhahdaa baalkii sheekh maxaan ku dhahdaa alkandawi iyo intaasoo dhan waxay debigoodba waxay hayeen kaana waxa duwan dariiqada ay u soo marayeen ayuunbaa kala duwan laakiin kulluhum yamshuuna calaa khatin waaxid waxay u socdaan tawxiidka ilaahay iyo maxaan ku dhahdaa dadka ummadda marka walaalayaal tawfiiqda allahna waafajiye hadalkaa waa lagu celceliyaa mar walba waa lagu celceliyaa jazaak allahu khayr waxay u baahan tahay in haadii ummatakum ummatan waaxida culimmadu waa inay ittifaaq waa inay maxaan ku dhahdaa ay dadkan cusub ee dhalinyarada cusub ee soo kacaysa waa in wacyiga la baraa oo la yidhaahdo war dacwadeennu ma kala dheereen ummadeennu meel keliyaataan u wada jeednaaye xarakaadkan iyo waxaanaan dadka ugu yeedhayno ummaddu waxay naga war sugaysaa walaalayaal khayr allahana waafajiyo jazaak allahu khayran sugaysaa inay naga maqasho ilaahay baa sidaa yidhi iyo nebigaa sidaa yidhi maaha maxaan ku dhahdaa annagu taasaan aaminsannahay wallahina beenay sheegan aan waqtiga naga qaatay xataa waxay gaadhay masaajidka aan maxaan ku dhahdaa aan joognaya waxa ay gaadhay xataa dadkii la soo islaaminayay in lagu afuufay akii aad uga dhigi lahayd ilaahay baa sidaa yidhi nebigaa sidaa yidhi ayaa waxaa la leeyahay war sheekha ha dhegaysanin hadalkiisa war waa dadkii soo islaamay dadkani waxay kaa rabaan jazaaka allahu khayran ilaahay bartid inaad tawxiidka ilaahay bartid inuu nebiga ku xidhmo diintii saxiixahayd intaanu ka wareegnayba xataa dadkiina soo galay islaamka soo galay ayaan waxaan ku bilaabaynaa fikrayo markaa tawfiiq allahna amiin 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 jazaaka allahu khayran sheekhaygii sheekh cabdiraxmaan ilaahay dartii baan ku jecelahay الله يبارك فيك هذه أدبان ما كنا مقلا يا شيخ كوري أبو طلحة وقت سكوينو مقلا يا أمرين دور جيرمان أرضي دي سافريدي فلاني جارسيا مشايخ ما شاء الله هذه أدبان إسلامية ورولا على الشيخ أبو طلحة والبكتيني شيخ يحيى حق يقدم حق
بريها لقى سدالة قبر كين لقى جبي لقى ربوا قويسكا شيخ يحيى جزاكم الله خيرا aad baad u mahadsantahay sheekho degdegay dartii aad baad u mahadsantahay waan xumaa inaan kugu soo koobo hadalka mawduucii aan ku jirnay caawa dabcan ayaan rabnaa inaan sii wadno jazakallahu khayran sheekh sheekhana halkaasaan ku koobaynaa insha allahu tacaala mudaahaladii walaalaha aad baan uga mahadinayaa dhammaantood waxaan mar kale xasuusinayaa insha allahu tacaala bisha bartankeeda inaan bilaabi doono koorsadii online-ka ahayd ee lagu baranayay dabcan qoyska horumarintiisa lagu baranayay insha allahu tacaala sheekh cabdiraxmaan intaanan soo xidhin dabcan waxaan u malaynayaa caawa in aan laga dhargin waxaan codsanaynaa insha allahu tacaala xalaqo kale insha allahu tacaala in aad noo soo laabato oo aan ku helno waqtigaaga helo sheekh waan soo qabanaynaa ballanta insha allahu tacaala dardaarankii u dambeeyey caawa dabcan qodobo aad u tiro badan ayaa tirisay oo aad muhiim ah walaalahan aan kula dardaarmayo in ay cajiladda dib u dhageystaan hadduu alla yidhaahdo dardaarankaagii u dambeeyey maxaadna leedahay sheekh jazaaka allahu khayr aad baad u mahadsantihiin walaal jazaaka allah khayr akhi fillah sheekhay maaragtay walaalkay jawhar waxaan u malaynayaa inaan saaxiib nahay 28 sano wax caadiya maaha marka inankayga curadka oo dhalan baan imika 40 jira inaan ka hor aan saaxiib ahayn baan ayaan muddo 5 sano 4 sano ka horreysay baan saaxiib ahayn waa iga da'yar tahay laakiinse dadkaan alifka u bilaabad ahayd kadibna culmo noqday alxamdulillah waan ku faraxsanahay allahu akbar allahu akbar jazaaka allahu khayr sheekh ilaahan hadeeyey oo na hanuuniyay anakoo u bada ayaa mahad leh subxaana wa tacaala dacwadana waafajiyey walaalkii ugu dambeeyey nala hadlayey yaxye sheekh yaxye soo saas magaciisu ma ahayn jawharo sheekh jawharo sax wey ha sheekh yaxye from Buffalo New York aad baan ugu faraxsanahay hadalkiisa qiimiga badan iyo iimaanka iyo xamaasadda ku jirta muddada intaa leg weli aan ka dhammaan waxaa iyada lagu farxay ka mid tahay xaaji diidana una xasuusiyey khayr allah siiyo xaaji diidana una xasuusiyey markaskii dacwadda tabliiqa ee maaragtay 80nadii 9-nadii intii la dhisay markaska cusub ee dacwaddu ay ka dhisatay magaalada Djibouti ee aadka u weyn ilaahay ha waafajiyay kana khayrka iyo wanaag ay wadaan waxaan markaa aan xasuusanahay saddexda shay ee ummadaha laga baabiyo al-usra qoyska marka ummad la duminayo waa kow ad-diin wal qiyam diinta iyo qiyamka valueska labadaana in la baabiyo saddexaadna waxa weeyaan الرموز dadku waxay leeyihiin ramsiyaal bay leeyihiin taariikhda soo galay مثلا annaka ramsiyaadkeena waxa kamid ah nabigeennii afarteennii khulafo sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhum waxaa ka mid ah saxaabadii waaweyneed kibaaru saxaaba taabiciintii baa ka mid ah salaaxaddiin baa ka mid ah sayfuddiin qudus baa ka mid ah waxaa ka mid ah maaragtay cabdulqaadir jiilaani waxaa ka mid ah ibnu taymiya waxaa ka mid ah ibnu alqayim waxaa ka mid ah ibnu kasiir waxaa ka mid ah culummada waaweyn kuwa imika casriga nool rumuusta waaweyn ee fikriga islaamiga sida fiqiga dacwadda sida dadkaaba lala dagaalama marka ummaddu markay bilaa rumuus noqoto bilaa mustaqbal bay noqoni marka ay noqoto bilaa qiyam iyo bilaa diinna bilaa waxay noqoni taariikh markay bilaa qoys noqotona bilaa asal bay noqoni marka ummaddaa si yaro fudud baa loo dumin karaya saddexdaa shay baa lagu meeraystaa imika aad waana la soconnaa xoog baan la soconnaa annaguna xoog baan u difaacnaa culimmadeena qaar baa ku kufaa يعني waxay kala saari kari waayaan naqdiga iyo ceebaynta مثلا qofka marka sheekh aad naqdinaysid hadduu khalad galay qardaay baa khalad galay naqdi laakiin ha caayin waxa khalad galay مثلا sheekh Ghazali naqdi ha caayin waxa galay مثلا sheekh bin Baz rahimahullah jamaa rahimahullah jamaa ha caayin naqdi laakiin marka aad sheekh bin Baz ka dhigtid waxaan jirin baba wax weyn buu qabtay laakiin waxa ma qaban ka tirada caayin waxay taasi ka dhigan tahay in ramsi ummaddu ay leedahay baabiinaysid oo duminaysid marka قتل الرمزيات waxay ka dhigtay inay qof kasiba caayi karaan qof kasiba iska dhaafi karaan bila taariikh inay noqdaan baa la rabaa marka ma hadhayal inaad imika aragtid ina la isdul dhigayo in la caayo jamaacadka culus sida salafiyada sida ikhwaanka sida khuruujka waxa la doonaya in wax la dumiya la doonaya annaguna waa inaan fahanno inaan dadkan ay yihiin takaamul oo dadkii dacwadda soo nooleeyay yani ummadan ay ka soo dhaqaaday soddonadii 40 ka tagay joogay waxba lama hayn لكن ما أنت وحوي باليه وحا سميه وحوي رجع بسميه ما كان رجع إلا عايو عيب ويان قفك عيبين يعني سجع خضبين وإنا إستصحنا ويان أنا وان نقديا
xataa madrasada laygu xantay inaan ka mid ahay waan naqdiyaa laakiin ma ceebeeyo wax waxay baray waa yaka weeyaan marka kuwa kale waan ka faa'iidaystay qof aan ka faa'iidaysan wallahi alcadiim ma jiro marka sheekh kastina waan jecelahay waan u mahadnaqaa ani dadku sheekh mustafa idhahdaa war markaa tiraahday arday baan u ahaa duq baad iga dhigtay haygu oran buu idhahdaa moogtahay laakiin mustafa xaaji ismaaciil mustafa burco yani haddii uuna jabuuti iman oo aanan la kulmin cabdiraxmaan bashiirka maanta ahay maan ahaadeen marka aad baan ugu farxaa inuu jabuuti imitay oo anoo kutub yar akhrinayo igu yidhi halkan ha socon halkan kale waxaan akhriso waxaan kala baro halkan mar yani wax weyn buu taariikhda ka bedelay sheekh xasan dahaye oo buuram u fadhiya yani nolosheedu wuxuu ku leeyahay basamaad buu ku leeyahay yani dadka ceebeynaya waan la yaabaa qofku khaldami karaa laakiin xasan dahaye basamaad buu ku leeyahay maxaan ku dhahdaa sheekh cabdulqaadir gacmi soomaalida u taqaanaa reer boontilaada basamaad buu ku leeyahay maaragtay allah yarxamo دكتور علي الشيخ أحمد مدير جامعة مارة سابقا مقدشو بصمات والرشد كلية هي دكتور عبد الرحمن بادي الرشد بصمات كلية هي محاكو هذا هو جيبوتي جوش عبد الله نوح معلم كيجي وهري الرشد بصمات كلية هي صاحب هذا بصمات كلية عبد الرحمن برخاد أرض جيجاها لكن بصمات بيقولوا هي maxaan ku dhahdaa sheekh giire basamaad buu igu leeyahay doctor xaamud cabdilmaartib maxamed daahir sheekh muuge allah yarxamo qaadigii jabuutiga hore qof wax ii tarin ma jiro nin ma igu soo joogsanaysa markaa raggaa magacooga hadal qaadqaadaya dadkeena waxaan u baahannahay inaan maaragtay isqiimaynaan u baahannahay inaan iscayno isdhaafdhaafno ma aha marka qof kastii oo wax ka faa'iidaystay marka laga soo bilaabo sheekh cali oo tajwiidka iyo quraanka akhristiisa ay baray qiraa'ada anoo yar baray magaalada dirdhabe marka loo yimaado sheekh cabdulqaadir waa makhrama oo madrasada najaaxiyi ii dhigi jiray xafadda lixaad xafadda waxaan jeedaa kaarta labaad ee caasimadda barisanaanbe agtiisa balasmaxuud xarbi ninba uu garanaya ninkii garanayaa waxaas oo dhan waa taariikhdayda ayay ka mid yihiin qofaan ilaabi karaayo uu yar yahay waan u duceeyaana ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إلهي إنه قلبت غلك أبو ما فيعنه مركا قف أن كيف يديسن ويريه مالك سيد مركا ديارني 10 أدق وأنا مكان مريء كتاب وجزر على أصول الفقه وحن دقيستا أبو يران شنية طبعا شيخ يعني دقيسي وهذا عن سمايا قاعدة عن دقا يوردان waxaan akhriyaa intaasoo kitaab 30 kitaab baan akhriyaa oo dadka kala qoray madaaris cidda ay yihiin Soomaali baan dhageystaa tafsiirka markaan daaranayo waxaan dhageystaa culimadeennii waaweyneed baan dhageystaa tafsiirka Soomaalida oo aan ka faa'iidaystaa luqadda Soomaaliga aan ka faa'iidaystaa maxaan ku dhahdaa say u istidlaalayaan halka ay ku laamayaan say wax u baarayaan kadibna waxaan ku darsadaa inaan tafsiirtii akhriyo waxayna waan ku daraa markaa yani iyo aqoonteedii marka waa takaamul nolosha weeyaan lama kala maarmay dadku waxay moodaan inaan iska soo fariisto kitaabka mariyo cilmiga anigu igu soo shumay yani laysa amru kadalik amarku saas maaha marka hatta al'aan arday baan ahay qof aan ka faa'iideysan ma jiro yani dadka ilaamika aan muxaadaraad ugu dhageysto waxa kamid ah sheekh mustafa marka soo sheekh mustafa dhageysto waxaan ka faa'iideystaa wax badan waxaan garanaa inuu muxaadara ka galaya magaalada maaragtay Norway caasimadeeda ayuu yimid muxaadaradii marka aan ciwaankii bilaabay qalin iyo wuxuu qaatay waraqad محاضرة قرأت وقرأي مركا وحن كفر عايز أنا أرضي جيسها إنه محاضرة ذي يوم بقى قرطي ونضدك تسيين يتعي محاضرة عن عادي هاي أنا ونساسا رغب في الإسلام سيكون نساسا بيقيم إياه وهكذا يعني وأنا ضدك يرى الصومالي يقول حجروا كجرا لكن اسمه قيمة إياه مصطفى حاج اسمه حسو حد دياريو سيدا وحسو بارو سيدا وحقو النقضو وحمارتي ضدك يكون فرحان ولا ليه هنا كلو مارتي أدوك جوكتا ضدك اسمه أوغو وإن كحرونا خاندهن يخفصيدا لقما مارمي كريو عبد الرحمن بادي أنا كنا وني سياسي يوبين لقما مارمي كريو دكتور علي الدسوقي قطبي وإصلاح شبيلي أمل ومارته وسلفي وعلماء وين كلهم نحتاج إليهم مركا علماء تبليغة وحال اسكو إيمانينا ومال وأنا الخردمي كرا وأنا السيحي كرا وحبضاً ما كودي دينها قار وحبضاً بيقول يقول وحبضاً بيقول دين وحبضاً بيقول يهين الحمد لله وحنقص عنانا نحو تمكين دين الله إن دينت إله الناس دين وسعينه إن قويس كمسلم كدسنو إن أمضى إسلام كديبو دسنو
maaha waxaan ka shaqaynayno wadaadiyar oo xadiis ay banihin waxaan wadnaa waxa weeye alxadaara alislaamiya inaan nooleyno civilisation islaamic inaan nooleyno inaan kala qayb galno bini aadanka adduunka maanta maamulaya inaan nolosha kala qayb galnaan rabnaa iskama hadlayno marka reer galbeedkan waan la sheekaysaynaa waan la xiwaaraynaa waan la noolahay way nala nool yihiin maaragtay nagama sarreeyaan nama doominaynayaan annakuna ma doominayno waan la hasaawaynaa waan nala hasaawayaan hakada hiya alxayaat nolosha waa sida weyaan marka waxaan rabnaa inaan halkaa gaarno insha allah walaalaha maaragtay u suurtogeli weyday waxaan maqlayay sheekh abubakar xoosh waa saaxiibkii weeyaan waa dhallinyarada adiga ku laalay kaabarkii dacwada la bilaabayay alxamdulilah maantana culamada soomaaliyeed buu ku jira ruuxaaniyaadka iyo ku fiican iyo maaragtay ijtimaaciyaadka iyo takhasusaadka leeyahay aad loo dhegeysto waana sheekh marixa oo marina oo comedy ah oo aad ka daalin haddaad layra fadhiisatid habeenkaasoo dhan buu kusoo jeedinay shaah badan buu kusiinay oo ku raaxaynay dadka waa cajaa'ib oo kale marka وهكذا هي الحياة يعني شو أساس ويان ما شاء الله تنوع waxaan la kulmay mar dhaweyto sheekhyadii hore sheekh ka mid ah Umar Barkhad Good sheekh dhacdo oo isaguna culimadii waxay bartay aad u caalami badan sheekh Muuse xagga la joogaa Muuse Faarax magaalada Toronto marka tago culimo waxaan la kulmaa jamiicu tawajjuhada salafiya ikhwana tabliiqa dam jadida dam qadiima hada laba magac wax ka sibaleeya lakinnahum fi nihaaya waxaan wada cabnaa shaaha waan sheekaysanaa waan isxusuusinaa waa laisla ooyaa waxaan wada bilowna baa la dhahdaa nolol baa lagu jiraa la bilaabayo la kubcinayo magaaladan baan imanay oo yara seexatay waan soo nooleynay waxaan soo kicinay oo taaba alxamdulilah wahakada hiya alxayaat nastamir wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin ilaa geeridu noo imanayso sanastamir calaa dalik caطaa'an waakhdan waxbaan ka qaadanaa dadka waxbaan u dhiibaynaa in sha allah waan ka faa'idaysanaynaa walaalkay oo aad iga yar sheekh jawhar baan ka faa'idaystaa walaashay waan ka faa'idaystaa maaragtay hibo raganimada nigu maaragtay ammaanaya iyo geesinimada iyo soomaalinimada aad dhaafteen maaragtay laba qof oo isjecelo dadka u sheegay inaad isjeceshihiin yani anigu waan qoraa islaantada waan jecelahay laakiin weli intaan meel lasoo fadhiistay waatan taan jeclaa ma oran ma gaadhin halka yani laakiinse waxaan dhahdaa waan jecelahay islaanteeda alxamdulilah waxaana nolosha aaminsanahay nolosheeda ani waxaa i sameeyey ilaahay dabadii iyo culummada aan sheegayo bacdahuma waxaa i sameeyey laba dumara hooyaday iyo xaaskayga marka waa laba dumara hooyaday waa saciid wacays waa islaam weyn waa haweeney laakiin waa haween culus naag caadiya maahay isna caadiya maahay hooyaday allah ilaahay caafimaad ha siiyo inaad ducaysiin baan rajaynaya qofka labaad ee nolosheeda ila soo dhistayna waa xaaskayga sacaada fu'aad baan dhahdaa alxamdulilah waxaasina waa ilaahay gabadheeda gabadh qurataan dhalay saddex wiil iyadana waxaa ilaahay soo wadana allah garanaya halka kuma joogsanaysa aan balinayaa laakiinse gabadhaas aan jeclahay iyadna waa baratay inamada waan ka jeclahay ficlan waa wada jeclahay laakiin waa gabadhde marka gabadha way ka horeysaa inamada insha allah dumarku markaa qiimay leeyihiin insha allahu tacaala maasha allah dumar soomaaliyeed waa dumar culus weeyaan ragguna culus yihiin insha allah waan salaamayaa cashar baan tagayaa qolo kale oo telefishinka wareysa ilaa laa jirta marka waan jeclaan lahaa inta ay ka badan la joogo aad baan isoo salaamayaa allahu akbar allahu akbar ما شاء الله شيخ عبد الرحمن جزاك الله خيرا تاريخ بدير او aad u qurux badan oo aan hadda jeclaystay in la sii wado ayaad tilmaantay aniga ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligiisa ka sokow waxaan aad ugu faanaa dabcan hidaayada ilaahay bay gacantiisa ku jirtaa laakiin dad baa sabab u noqda caqligan iyo hamigan iyo fikirkan dabcan waxaan leeyahay walaalahana la wadaagayaa oo aanan ka qarinaynin ood garan kartaa markii kubadda iyo banoonida aan ciyaari jirnay dhalinyarada ahayn aan aadka u yaryarayn niman axbaab oo maaragtay halkaan isla joognay xalay baan uga sheekaynayey marka waxaan idhi sheekh cabdiraxmaan bashiir iyo barkhad waxay ahaayeen ciyaartooy aan caadi ahayn marka dacwada annaga waxaa lanoogu dhiibay islaamka iyo masaajidka lanoogu soo geliyey khilaala maaragtay sportiga marka adaa ku jooga sheekhaygii imika markaan muxaadarada ka baxana maanta kubad baan tagay insha allah rag ka imanaya magaalo kale montreal iyo waxaas la ciyaaraya magaaladeeda gatino oo taba ku garab taala cajiib waxaa laga yaabaa inaan u ciyaaro kooxda gatino maanta aan laba gool iyo wax inkaas inaan insha allah
كقول زين ضليو ورجالي هذا تقول لي شيخ حبيبي aad baan kugu mahadinayaa sheekhayga macallinkayga walaalaha waxaan barayaa oo u sheegayaa macallinka jacaylkaygu waa Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo aad maqlaysiin oo aad arkaysiin asagaan ka bartay asagaan ka soo qaaday anigana waa idiin soo gudbiyey dabcan guurkayaga quruxda badan leed aragteen alxamdulilah rukunka waxa u dhigay Sheekh Bashiir ilaahay khayr siiyo طبعا وانا دي كشيكي مره وين هلكان عن شيخ وقتي قاضو waxaan rajeynaya insha Allah ta'ala sheekh inayna noqon kul jalsadii u dambeysay kalubkii u dambeeynin hay'adan iyo maartay muassasadan aan ugu talagalay usra saciida naajixa in lagu soo saaro dabcan yani dadka maskaxda u ah ka dambeeya waxa alufka maartay sheekheena Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir ilaahay xafido طبعا سدا او tilmaamay sheekhu culimo badan oo iyaguna maaragtay aan wax ka qaadano oo aan la tashano oo aan wax weydiino oo cilmigan maxaan ku dhaday bulshada iyo usrada in yani xadaarada iyo maaragtay ilbaxnimada in aan tawdiirino oo maaragtay la horumariyo oo la islaamiyeeyo oo sida sheekhu inoo sheegay wixii qashin ama aan fiicnayn caqiidadaadii iyo diintaadii iyo dhaqankaaga ka hor imanaya inaad qubto wixii dhaqankaaga ku dhex jiray ee qashina aan fiicnayn ee diintaada ka hor imanayana inaad toosiso ood ka saarto dhaqankaaga marka in khayrul umuuri awsaduha wixii wanaagsan bartamaha dhexda inaan ka qaadano insha Allah ta'ala sheekh aad baan ku jecelahay adiga iyo familigaagaba ilaahay idin barakeeyo saacada fuaadna inay geesiye tahay waan ognahay ilaahay xafido cimrigeeda Allah dheereeyo walaalaha caalamkana waxaan rajeynaya insha Allah ta'ala quruxda iyo namuudajkaas in la faafiyo sheekh waxa slogan noo anaga waxa taxta la galiyay maxaan ku dhaday kaarbadka hoostiisa quruxda iyo wanaaga qoysku leeyahay malaayiin isjecel oo qurux badan oo wanaagsan oo ilmo qurux badan leh ayaa buuxa oo jira inta badan waxa la faafiyaa foolxumada waa burburka furiinka dadka isdilay dadka kala tagay intaas la sheegaa waxaan leenahay anagu marka فالحمد هلا قريو هلا أسترو قروح ذا هلا فافي إن شاء الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث إلهي بين بري أدبان وفرح سنة هاي شيخ إنه عاون لجوه وقت قالوا نسيه شيخ أنا قرر للنقو ولا لا بدن بان مارتي ربنا إن رالي قال إنه علمي جاي وقت جاي أن كفى ابنه أنت عشان كسو كوبي إن شاء الله تعالى ولا لها أنت أنا نصيب أهلين أدبان وعذر دارنيا إن جماعة دماني إن شاء الله تعالى وحنا دين بلن قاضينا شيخ عبد الرحمن iyo culimo kale inaan idin keenay insha Allah ta'ala idinkana waxaan idin ka codsanaynaa insha Allah ta'ala in culimada aan ku xirantaan page keenana aad like garaysaan Happy Marriage Academy page ka sheekha Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir aad buu luqada carabiga wax ugu qoraa oo wax u taxliiliyaa waxaan aad u rajaynayaa YouTube kiisa inaad subscribe ka aad ku sameysaan oo like garaysaan si aad u heshaan cajaladihiisa iyo maaragtay tafsiirka iyo xadiiska iyo fiqiga uu dhigo شيخ ومارتي وحكو تخصصي فقه بلارن فقه الواقع هذا اللغة فايدة جزاكم الله خيرا آد بدو ما سنتهين شيخ إلهي أكبر كيو إلهي وحن كبر يا سبحانه وتعالى عمري إنه كودر عافمات كوات كيو أننا إلهي سبحانه وتعالى إنه نحفظيو قريها إلهي إنه بركيو جلسدين إلهي إنه كدغ مد أيو مدو كفائدي مد أن لغو خسارين مد إن شاء الله تعالى إلى آخره إلى جنة sida aan halkan ugu kulannay hawada aan ugu kulannay inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala inaga dhigo kuwa maca nabiyiina wa sidiiqiina wa shuhadaa'i maalinka qiyaama la soo bixi doona xawdka nabiga ka cabi doona insha Allah ta'ala sheekh jazaaka Allahu khayran aad baad mahadsan tahay waan jeclaan lahaa inaad noo ducayso sheekh wallahi jazaakum Allahu khayran waxaan jeclahay ballatina aad bay soo gaadho kala soo telefoniyay laba ballan baa isku daba taala insha Allah waad mahadsantihiin saddex ballan macluuq badal lagu daro annaka waxay noo tahay imika 3 rubuc marka galabnimo insha Allah 3 barkan muxaadaro galaya kadibna waxay igu xiga insha Allah ta'ala jazakum Allahu khayran asakina Allah yadaamay sheekh noo duceeyo waan ku fasaxaynaa insha Allah okay insha Allah haye insha Allah الحمد لله الثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ولسانا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك البركة في الأعمار والأولاد والأرزاق والأسر يا أرحم الراحمين. إله أبدك نو بركة ونو هدي، إله قيسك نو إلالي، إله علماء نو إلالي، إله دين هذا النقصك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. إله كدق قبدا نلا شيء جنة كدق، إله نجا إلالي إنا نقنو من أهل النار يا أرحم الراحمين. إله والدك نسور ربي، إله نحريسه وحيد أنت وحنون، إله إلالي يا أكرم الأكرمين. إله وحن كبرينا إنه إن قدقوا حملة دينه ودين تسسيدا ورسالته ودعوته إلى لقاء الله. آمين آمين آمين. وصلى الله على محمد. سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شيخ aad baad u mahadsantahay, جزاك الله خيرا. aad baan kugu mahadnaqaynaa, waan ku fasaxnay. salaamu ullahi calaykum waraxmatu wabarakaatu. walaalihiina nagu wada salaan dhammaantood axbaabta. insha allahu tacaala salaan qaaliya naga gaadhsii weliba axmed jawhar iyo hibo cumar. jazaaka allahu khayran sheekh. ما شاء الله. السلام عليك سعادة. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك. الله معكم. بارك الله فيك. هذا ومساتين، حياكم الله. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله.